سيدو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وأنا السلام يا دمانتين خيارتك سوق يبقى شيء برنامج كان عاوين سونمي ميل كستو على دونك كثير شوفتان. dadku waxay u kala qaybsan yihiin laba qaybood, qayb ku jirta Zoom-ka iyo qayb live uga daawanaysa Facebook. barnaamijkan caawa aynu halkan ku ballansanahay aynu qaada dhigi doono waxaynu ugu yeedhnay faafreeb mise bilaa faafreeb oo aynu uga jeedno hal-abuurka iyo qoraalka buugaag hadday noqoto iyo hadday noqoto hal-abuur kale wax aynu inagu hal-abuuray iyo waxaynu soo turjunay kay doonto ha noqoto kelmadda qoran iyo kelmadda duuban wixii ummadda lasoo dhex gelinayo ma in la faafreebaaba mise waa in aan la faafreebin ee sidaa loo sii daayo oo qof waliba wixii uu markaasi awoodo oo markaa maarta uu qori karo, wixii uu doono turjumi karo, wixii uu doono ummadda u keeni karo, mise waa meel labadaa u dhaxaysa oo labadaa maaragtay dhexdhexaad u ah. qodobkaas ayaynu maanta la faguri doonaa. waxaynu ka eegi doonaa dhinacyo kala duwan. waxaynu eegi doonaa hal-abuurka iyo qofka hal-abuuraha iyo tacabka ka gala wax soo saarka oo uu soo saaray. waxaynu eegi doonaa dhinaca diinta islaamku waxa ay ka qabto. waxaynu kala eegi doonaa hadda marxalad baa la maraya cusub oo dib looga soo kabanayo
dhibaatooyin fara badan oo ummadda soo gaadhay 30 sano ugu dambeeyay qoraalku uu soo badanaya qorayaashuna way soo badanayaan marka waxaa jirta in aad looga hadlo in aynu meelaha qaarkood mar dhawaaqay ka maqanlo buug meel laga qayliyey buug la xiray ciddii qortay buug isagii la xanibay iyo dacwado kala duwan oo meelaha kala duwan ka soo yeedhaya marka aslan maanta cid gaar inagu aan la hadlahayn waxaynu fiirin doonaa 30 sano ee hadda waddanku burbursanaa wixii ka horreeyey dowladdii kacaanka iyo faafreeb horta sidii uu u shaqayn jiray iyo siduu ahaa ma jiray faafreeb sidee baanu ahaan jiray qodobkaasina waa qodob aynu isagana eegi doono saynu taariikhda dib u yar milicsano marka soo dhawaada baan idin leeyahay dhammaantiin waxaan ku talagalnaa barnaamijkan inuu noqdo barnaamij iba furi doona in mawduucaas aad looga hadlo sababtu tahay waxa weeye waxaa hadda soo badanaya aqoontina way soo badanaysaa xasiloonidii way soo badanaysaa marka halabuurkuna inuu soo badanaya aynu rajaynaynaa iyo qoraalkii iyo turjumaadii marka in arrintaas laga doodo oo aqoon isweydaarsi weyn laga sameeyo arrin loo baahan yahay maanta kuma soo koobi doono laakiin maanta waynu iba furi doonaa waxaanu hadalka u qaybin doonaa inaan martida maanta barnaamijka inoogu martida amarka hore aan soo dayno oo aan dhegaysano 3 aqoon-yahan ayaa martiino ah waynu mid walba siin doono hadal yaroo kooban oo mawduuciisa ku saabsan aqoon-yahan waxa weeyaan sayid axmed maxamed jaamac maxamed faarax sayid axmed maxamed yuusuf oo ah qoraa buugaag doora qoray baabka qoraalkan aad iyo aad ugu jiray oo runtii maaragtay dad badan ay garanayaan buuggiisii ugu dambeeyeyna wuxuu ku saabsanaa taariikh inta badan taariikhda ayuu u badan yahay dhinaca taariikhda buuggiisii ugu dambeeyeyna wuxuu ku saabsanaa inqilaabkii 61 ka dhacay Soomaaliya oo ay saraakiishii kasoo jeeday dhinaca Somaliland ay isku dayeen dib u goostaan 61 Somaliland oo dhicisoobay buug buu ka qoray kaasaa ugu dambeeyey shakhsiga labaad aynu isagana ku casuumin goobta maanta waxa weeyaan Fuaad Sheekh oo isagu dhinaca Mareykan inagala jooga ahna shakhsi runtii wax badan oo taariikhda iyo suugaanta labadaba ururiya tafatira naaqida oo faaleeya website-ka aad maqasheen ilaa farshaxan ayuu ahaa tafatirihiisa muddo dheer qofka saddexaad ee maanta inoo martida ahi waxa weeyaan Cabdirasaaq Siyaad Cabdi oo hadda inagula jira barnaamijka oo aynu eegino bal haddaynu dhinaca diinta islaamka ay naga sii aragti aan idhaahdo Fuaad wuxuu ka hadli doonaa wixii ka horreeyey 91 iyo faafreebku siduu ahaa waqtigii kacaanka Cabdirasaaqna dhinaca diinta ayuu wax ka odhan doonaa sayidna waxa uu ka odhan doonaa qoraalka iyo tacabka qofka qoraaga ka baxa iyo qofka hal abuuraha waxaan doonayaa inaan soo hordhaweeyo marka ugu horreysa maadaama waxaan laga hadlaya la faafreebayay qoraal iyo amaba tacab hal abuur bal in soo dhaweeyo sayid axmed maxamed yuusuf soo dhawow sayid waxaan intaanan sayid weliba hadalka wada siin aan doonayaa waxaan idiin soo dhigay halka qoladiina ku jirta gudaha linkiga barnaamijka Facebook ka socda waad sii qaybin kartaan dabcan oo Facebookyadiina iyo gruubadiina waad soo diri kartaan aniga idiin soo dhigay goobta chat su'aalahana waad gacanta taagi kartaan insha Allah soo dhawaada soo dhawow sayid بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد حرسي قوليد آدي آد ما سنتهاي يوم أحد أقوم تورنتي ده هوشن إنه سورة جلسي كل ما وقت يرو كوبن مركب واحد شالين عن موضوع آخر كجلو موضوع بلارن ويي oo tifaftir ama marka laga hadlayo maxay faafreeb ama waa arrin aad iyo aad u ballaaran oo taabanaysa wax fara badan oo laga yaabo inaanay ahayn kaliya qoraalka kaliya ay noqon karto wax la duubay TV ha noqdo cajalado waxyaabo badan bay noqon kartaa marka laakiin kullayba aniga intan aan isku dayayo waxa weeye xagga qoraalka oo waxaad moodaa in aan aad loo dareemin markay tahay ama TV ama wax kale oo la duubay dadku waxa laga yaabaa inay inta
marmarka qaar waxaad arkaysaa iyadoo toos ay uga socdaan hadallo aan munaasib ahayn laakiin xoog lama saaro waxa xoogga la saaraa inta badan marka la yiraahdo buug dhigane uu dhigmaya halkaasaa horta aad moodaa inay innaga kulleyba inagu soo noqnoqoto laakiin mawduucu waa mawduuc ballaaran oo ma aha buugaagu keliya kama hadlo aniga oo iska soo gaagaabsanaya waxaan marka hore isku dayi doonaa dareenka dadka waxaan xasuustaa 29kii ilaahay ha u naxariistay maxamed xaashi dhabca gaariye oo geeraar uu la soo istaagay khayriyadda magaalada Hargeysa oo geeraarka waxaa ka mid ahaa hadraawow indhaweydba sidaydii ma ahayno waxaanay nin arkaya maanku waxaanay nin arkaya waxaan uunku u jeedin oo keligii afariirsan wuxuu ku bilaabay markuu geeraarka marinayay qofkii xasuusan baa xasuusan wuxuu yiri geeraarka aan maanta la taaganahay laygama soo faafreebin cidna may iga soo baarin ee aniga oo aan cidna aanay soo baarin ba halka la taaganay wuxuu markaa dareen buu muujinayay laakiin maanta aan la xasuusnay ka hor faafreeb baa jiray markaa taa waxaan u daynayaa faafreebkaasi nooc uu ahaa kulley fuaad baa ka hadli doona haddaba buugaagta buug dhigane eray baa jiray runtii aad inta badan la yiraahdo dhigane marka wuxuu taabanaya waa wax dhigmaya marka hore buugga qofku markuu dee ku talagalo inuu buug qoro fikir baa ku jira maskaxdiisa waxbuu ka fikirayaa fariin buu gudbinayaa aqoon ayay noqon kartaa mid maadiya mid diiniya bay noqon kartaa sheeko xariiro ayay noqon kartaa sheekooyinkeeni sheeko xariirada ahayd ama ta adduunkaba mala awaal uu isagu alifay bay noqon kartaa sooyaalka qof oo taariikhdiisa bay noqon kartaa de waa wax qormaya oo dhigmaya oo hawli gelayso hawsha waxa inta badan waan soo koobkoobayaa qofka inta de aan magaranaysa dareenkayga de intii aan ku dhex jiray aan la kulmay waxa kamid ah qofku marka hore de wuxuu u baahan yahay qalabkii wax ku qori lahaa waqtigii buu u baahan yahay waqtigaana ugu daran runtii waqti badan buu ka qaadanayaa waxaad isweydiin kartaa buugga ma bil baa lagu qoraa ma sanad baa dad bay 10 sanadood ku qaadataa run ahaantii oo laga yaabo 10 sanadood ma aha kama aha caajisnimo laakiin waxa laga yaabaa waxa uu qorayo ayuu rabaa inay noqdaan wax macna leh oo dadka uu soo hordhigo oo dhigmaya waayo kumaanku sanadood buu buuggaasi ooli karaa waqtigaaga qorshaysataa waa muhiim oo aad adigu waqtiga de aad ku tala galayso inaad wax qorayso qalabku bariga hore halkaa teeb baan ogaan u soo dhigay teeb baa wax lagu qori jiray dhibtiisu way fara badnay anigu runtii qoraalka waxaan ku bilaabay teeb aan soo iibsaday markaad istiraahdo dib u masax de maad masixi karayn laakiin maanta waxa lagu qorayaa waxa weeye aalad kale oo ka duwan oo computer baynu wax ku qoraynaa goobtaad wax ku qoraysaa dabcan inay ahaato goob ku habboon iyaduna waa laga maarmaan oo wax laga yaabaa haddii meeshu aanay ku habboonayn inaad wixii aad qoraysay aad qori kari weydo arrimahaas horta waa arrimo loo baahayo de qalab ahaan ama barnaamijkaad waxaad ku qoraysay waxa adaa laga rabaa waxaan ka hadlayaa qofka keligii isagu iswada wuu jiri karaa qof kale oo ama shirkad ama maamul kale ama arrin kale ay arrimahan u diyaarisay laakiin taynu ka hadlaynaa waxa weeye ta qofka keligii fikraday ku dhalatay dabadna la jeclaystay inuu dadkii u soo gudbiyo oo uu buug ka dhigo qofkaas markaa waxaan oo dhan baa ku kariyeysanaya wuxuu dabadna u baahanaya markuu qalabkii iyo qoraalkii iyo wixii isla helo wuxuu u baahanayaa sixitaanka keligii kuma filla waa inuu ugu yaraan 2 qof 3 qof uu de la bariyaa waayo qofka buugla soo akhriyaya waayo waxaan waayo arag u ahay dadka markaad u dirto waxa laga yaabaa qofkii inuu ku yiraahdo waa yahay labadaba iska dul maro oo ku yiraahdo waa okay waa fiican yahay laakiin aanu si rasmi u dhexgelin taana inta badan shirkada ayaa jira dad baa jira maxay ku shuqul leh laakiin inaga markaynu ka hadlayno tan inagu waxaanu ka hadlaynaa tan inaga ina haysataa qofku waa dad buu baryayaa u dirayaa 2 qof 3 qof 4 qof waxa laga yaabaa in qof kaliya si fiican u eego inkastoo imika jira shirkado runtii isku hawlo oo soo kobcayaan runtii tafaftirkaas waa xaggii higaada ma jiro barnaamij kuu saxaya waxay qaadan kartaa waqti dheer buuggu hadduu yahay 150 page waa laga yaabaa in laga bixi karo laakiin bal qiyaas buug laga yaabo 500 oo bog inuu yahay
موضوع iyo nuxurka buugga ayaa lagaa eegi karaa oo adigu fikirkaagii ha ahaado laakiin dee ka maarmi maysid cid kula taliso oo ku tiraahdo war malaha halkaa iyo halkaa iyo halkaa ama mawduucaas sidaa iyo sidaa kuma qurux badna ama kuma wanaagsan ama uu ku qaldan yahay ama dhaqan ha noqoto ama diin ha ahaato waxyaabo badan baa lagala talin karaa ereyada iyo weeraha saa u isticmaalaysaa lagala talin karaa waxay qaadanaysaa iyaduna waqti kale oo ciddan aad gacanta biday siday waqti kuu siiso ayaa runtii muhiima oo aad waliba inaad aad uga mahadnaqdo ilaa lacag ma siinaysid kama hadlayo marka shirkaduhu waxa laga yaabaa in qofka in mushahar lagu siinayo laakiin qofkan iska keligii ordayaan ka hadlaya ugu dambeyn wixii oo dhan markaad soo dhamaysan bislayso waxay noqonaysaa haddana daabacaadii waxaa laga yaabaa inaad lacag baynaad u hayn kharash aad ku bixisaa aad u hayn meel aad ka keentaba barye iyo deeq iyo adigu waxay isu geysaba aday kuu taallaa marka daabacdo meeshii aad ku daabacday ila gurigaaga dhexdiisii ma aha soo qaadidda keliya ka soo qaadayso ayaa iyaduna hawl kale ah waxyaabahaasoo dhammi ilaa iibgeyntii iyo haddii aad markaa soo bandhigayso iyaduna waa hawl kale iyo kharashkeeda iyo culayskeeda waxyaabahaasoo dhan ayaa horta qofka waqti dheer ka qaata culaysna ka qaata kharash badan ka qaata xidhiidh badan uu dad la yeeshaa sida loogu hagar baxaana runtii qayb bay ka noqotaa haddii laga yaabo aan cidi u hagar bixin inuu qofkaasi wixii uu soo saarayay aanay macno fiican yeelan laakiin haddii 2-3 qof ay aad iyo aad ula shaqeeyaan waxaa laga yaabaa wixii inay noqdaan wax qurux badan oo dadkii markaa de soo gaadha in yar baan halkaa doonaya inaan markaa kusoo gabagabeeyo waayo waqtiga waan ka faa'iideynaya waxa la qaatay inaynu waa tilmaamo baynu isasiinaynaa marka hore laakiin de wax badan baynu isweydiin doonaa marka barnaamijkan iyo qaar kaleba haddii aad eegto iminka tusaale ahaan 4 bog baan halkaa kusoo qoray 4 bog waxaa geli kara oo ah cabirka 12 xaashadda A5-ka la yidhaahdo kun erey ayaa geli kara 150 page 35,000 oo erey ayuu qofkaasi isu keeni karaa oo gelaysa macnaha buuggaa geli karaa inkastoo kala duwanaan karto oo calaamaduhu ay kasii badan karaan sidaa iyadoo ay tahay markuu dadkii soo gaadho buugu waxa dee aynu isweydiinaynaa ee faafreefkan iyo arrimaha looga hadlayaa waxa weeyaan waxaan dadkii soo gaadhay dabcan adduunyada dee imika anagu iswilan baan imika ku noolahay iswilan qaab bay u nooshay qaab bay wax u eegtaa buugaga ay eegto qaabba iyo siyaasad bay ka leedahay laakiin dhulka Soomaalida oo isu dhow oo aad isugu dhow waayo dhaqan ahaan iyo diin ahaan bay isugu dhow sideebaa xaalku noqonaya uu weeye runtii ujeedada ugu weyn ee aynu halkan u iba furaynaa taasoo dhinacyo badan laga eegi karo dadkuna bini'aadamkuna haddaanay wax isweydiin dee horumarba ma gaadhaan halkaa ugu hooseysa waxaa ku qoran sida aad filayso afisfinish bay ku qorantay waxa weeye macnaheedu sidaad filayso uma fududa the isforane and the truth macnaha wuu ka adagiyey markaad buug qorayso sidaad filayso way ka adagtay oo waxa laga yaabaa inaad adigu filayso waa tal buug la soo saaray kan kale la soo saaray laakiin way ka adagtay adayga de waa inuu macno sameeyaa intaasna uu kaga baxayaa kolle waynu isku soo noqon doonaa su'aaluhuna way badan doonaan laakiin barnaamijka waxaan dee u daynayaa inta kalena saaxiibaday wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه عبد الرحمن أيو سيد أحمد أمهد سيح وقطعك قلا يهوش كجش رقفك قراجع أيضا كان وحنا قدر ينسيس مركا وحنا لك أسكو حرينا قفك وحاصة هولي أي كبحضي يهدو فافريق كو إيمانية يمحل لقيه لكرم مذيه قفك وحاصة هولي أي شيء هذا بين تينان هذا واقعنا يمستقبل كنا خيرين عندنا ندير يرنقنا waxa uu ka sheekay Said Ahmed hawl ka baxaysa qofka halabuurka ah ya qofka faraaga ah iyadoo aan computer bariga jirin
وحالته ay sidan ka adkaayeen teebka wax lagu garaacay teebkana aan la wada haysan hada guriyaha computerku guriyuhu inoo wada yaalaa bariga wax laga yaabaa in qof kaliya uu ku lahaa xaafadan ama maad aagdan lagu qoro haddana waxa dhici jiray faafreeb noocyo kala duwan hadda waxaan soo dhaweynayaa Fuad Sheekh inuu naga siiyo sawir faafreebkii wixii ka horreeyay 19 sidoo ahaa faafreeb soo dhaw Fuad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وما سنتهي ماحدة قونتا يعني عبد بشير runtii waxa weeye waa mowduuc loo baahnaa in laga hadlo xilli fiican xilligeediina malaha aad moodo inuu ka soo beegmay waxaan uun isleeyahay horta ereygan faafreeb waxa weeye si wax laga yaabaa in qofku u arko erey keenaya didmo laakiin ereygu waxa uu noqonayaa uun turxaan bixin in shaygan qofka hawshaa badan loo soo galay ee dadaalkaa badan ku yimid ee uu sayid ka soo sheekeeyey hawshaasi inaanay inay ka nabad gasho curyaamin oo qof u badheedho ama dowlad u badheedho ama kooxi u badheedho sidoo kale in dhibta uu keensanayana ee uu keensan karana dee taana laga nabad galo muhiimku waa uun turxaan bixinu in taa la helo waxaan ognahay meelo fara badan oo adduun ka mid ah colaado badan dhibaato badan oo ka dhacday in waxa keena ay ka mid ahayd uun ama cod ama dhawaaq ama muuqaal ama dhigaal la sameeyey ruwaandana ay u tahay tusaale fiican marka haddii aynu ereygan eegno waxaan eegi doonaa bal ereygan faafreeb taariikh ahaan siduu u jiray waxa weeye ummadda Soomaaliyeed sideedaba waxaanu ka eegi doonaa 5 dhinac oo ka duwan mar waxay ahayd saddex xoolo dhaqato iyo beeraley aan maamul kulmiya aanu jirin mar waxaa jiray maamulo gumeysi oo kulmiyey marna waxaa jiray inay qaarna si iskugu yimaadeen qaarna u jiray marna waxa si kale iskugu yimaadeen oo ka duwan sidaasi shantaas isku eegi doonaa markaas sida waxaan qaybta ugu horreyn soo qaban markii la jiray xoolo dhaqatadii iyo beeraleydii la ahaa xilligaas waxa weeye inta badan dadkeennu wax iskugu gudbin jireen ay wax ku kala qaadan jireen waxay ahaayeen suugaanta aad ugu badnayd oo sida mahmaaha sheekooyin gaabana la yimaado maasooyin gabayada jiiftada buraanburka kuwaana waxa sal u ahaa oo had iyo jeer reebi jiray dhaqankii markaa ummaddaasi ay haysatay oo dhaqankaasa xiri jirayo qofku waxa bulshada u cuntama wax bulshada u qalma ayuu la iman jiray markaa la imanna way u dhici jirtay oo waxaanu garanaynaa maasooyin fara badan oo dad fara badan oo intii tiriyeen qaarba si ay ugu dhacday qaar xaal laga qaaday qaar lagu gooyey la baabiyey marka waxa weeye markaa dhaqankii ummaddaasi ay ku nooleed ay haysatay unbaa iyaga jirayoo qofkuna waa uun bulshada dee inuu ka mid ahaado kusii jiro unbay ahayd markii dambe dabeetana waxay gashay maamulo oo qayb faransiiska hoos timid qayb Ethiopia hoos timid qayb markaa ingiriiska qayb talyaaniga qayb Kenya oo ingiriiskuna iyadana ka mid ahayd markii u dhici jirtay oo waxaanu garanay Kenya oo ingiriiskuna iyadana ka mid ahayd laba dhacaya yaa qof baan naga xiraya wasiir qod way dabeetana tusaale kale markaan soo qaadano xilligii Jabuuti oo kale xilligii Faransiiska waxyaalaha jiray beriga waxa jiray dhaqdhaqaaq halgameed ayaa jiray marka had iyo jeer waxa weeye dhaqdhaqaaqaasi wuxuu lahaa qaab taladiisa arrintiisa uu dhaqdhaqaaqiisa uu ku hirgeliyo dekada ama boorka Jabuuti oo kale beriga waxa kooxda ugu xoogga badneed waxay meesha ka shaqayn jirtay 1930nadii urur bay samaysteen ururka ay samaysteen waxay u sameeyeen wargeys yar oo codka shaqaalaha ay oran jireen waxa weeye uu dib mutay ma jecleen waxa lagu soo bandhigayo maamulkii Faransiisku iyaguna may joojin marka laakiin waa socday inkastoo markii dambe afartanadii uu istaagay ku ahaa dhinaca Soomaaliland oo kale marka waxa iyadana xilligaas sodomadii 63kii waxa bilaabmay ururkii SNS inkastoo jireen ururo yar oo bulshada marka khayriyaadi ururkaasina markuu jireena waxa weeye Maxamuud Jaamac Ordoox baa inta badan loo tiray ayaa hormoodka ka ahaa dhinacana oo Ingiriiska
oo wargeyskii al Soomaal baa jiray dibtiisuna qabay hargeysa lagu maamul lagu qori jiray lagu sameyn jiray laakiin dacadan baa lagu soo daabici jiray hase dibtiisuna lahayo Ingiriisku mu jeclaysan xilli horana wuu xidhay afartamadii wuu xidhay afcarabi ku qon waxa jirtay marmar xataa xagga riwaayadaha dadku ay doonayeen dhaqankooda ku muujiyaan oo waxa jirtay riwaayad uu sameeyay Sheekh Cabdiraxmaan Nuur kulli magacda aan sheegayo intii dhimatay ilaa uu naxariisto inta noolna caafimaad qab baan rajeynaya Sheekh Cabdiraxmaan Nuur oo maxay boora marka soo jeedo kale waxa riwaayadii uu sameeyay kale Xajaaj bin Yuusuf isaga matalay soo muu sameeyay laakiin riwaayadu matalay laakiin waxa laga waramayay maamulka jiray iyo sidaasi taasi laftigeedu maxay diidmay la timid 1944 haddana waxa jirtay riwaayadii maxay Abul Jahl la sameeyay Carabi Soomaa ma jeclays marka waxa cabrid hadii jeer waa la cabirayay isna waa ka hor imanayay laakiin tasarbeeb iyo siyaasad ay ahayd 1940 qaab kale riwaayad baa jirtay isaseeg oo sameeyay maxay Xuseen oo Faarax Dubad oo iyada laftigeeduna ka waramasay nidaamkii waliba markaasi waxa dhacday markii maxay xabasho la wareegtay bay ahayd maxay hawd reserve area dhinaca kale maxay Soomaaliya Talyaaniga si laftigiisu muu jeclaysan oo 43kii markii ururkii Israel la sameeyay waxyaalaha soo baxay waxa kamid ahaa ururkii al-Wuxda la oran jiray ururkii Courier de Somalia la oran jiray ama dawlad Talyan waxa soo dhan muu jeclaysan oo si laftigiisuna maxay uu ka warimid waxa xusid mudan حتى إنما مركز قاركود حرب باي كيسنسي أو حرب وح كسب قلت تبيه كتوكيو كلا ولا جو حري محمود أردوح ولا جو حري واحد جرت الروايات دي محلي ويليو إن اللولو سميه جامع سلبان طبيعة وسجل فتيجي سو حرب كومتي مركز وحصل دن ويجرتي عبرت أسرع ويجرتي هي مركز دنبه وح مركز قفكو مركز وح جالسة إنه أرتيس الشيء تصال BBC ده مركز السميه طبيعة كتوكيو كلا heesta Cabdilaahi Qarshe markii la yiri hal cod loo sameeyo maanta wax lagu furo la sameeyo waxyaalaha la yaab kale waxa kamid ah qofku wuxuu leeyahay aragti qaab uu gudbin karo warkiisa waxay diideen inay ereyada siiyaan BBC-da way fahmayaan ereyada hadii fahmaan ereyada dabeetana kama dhiganayaan maxay BBC-da codka lagu furo dabeetana wuxuu siiyay codko kaliya ayuu siiyay ereyada waa ereyadu isagay ka soo horjeedin waxa kamid ah oo kale marka adeegto durdaha duulaya dirtuu dalooshada malabka uu dhigtuu jiilaalka dheer cuna waxa iyagu sheegaya dadku la hadlayay walaal maxaa sameyn waxaan la dhuubanahayn jirkayga dhaawacan idin dhamaynaya dhagamo u leedihi mise dad doohano codkaygu uu dhaafayaati dadkii la hadlayay kaca oo sameeya haddana cadowgii uu dhiibaya oo leeyahay isticmaal adaa leh hada isticmaal oo maxay lahaw marka gudbin markasta wixii la gudbinayo waa soconaya wuu shiraya taasina mujacsan laakiin wuxuu kaga duwanaa xariga yara oo waxa weeye ma jirin waxna sala sameeyo waxyaalaha wala mid la sameeyay wargeysyadii kala soo bixi jiray uradii markii la sameeyay SYShiye sanashiye saana daway jirtay mararka qaar kood waxa dhacaysa caaqil Suudaaniya caaqil iyo daway jirtay waa la xiray oo dawayn waynu garanaynaa oo soo qaadan karnaa taamka laga soo gudbo ee la yimaado haddana maxay Soomaalisidii waxaan inta dul marinta kala waskuman markii maxalida 60kii ilaa 60kiina waxa jirtay faafreed badan baa jiray oo tusaale soo qaadan karaayo 1961kii markii maxay la sameeyay waxa jiray urur bayaan ay soo saareen maxay 3 nin soo saareen waa la xiray Cabdilbashir baa ku xiray marka iyada way dhacday taasna way jirtay waxa timid marka dabeetana 69kii xeer baa marka la sameeyay maanta hore xeer mujrim la raacayo saasoo la sameeyay xeerkii faafreebka ayaa la sameeyay xilligan dawaan garanna maxay wixii ka dhacay maxay siin leeydi iyo sida wixii ka dambeeyeen laakiin hadii jeer waxa uu muhiima wixii ummaddu way fikiraysaa wax waa la imanaya waa la sameynaya cabrku uu jiraya oo taariikh ahaan waynu inaga sugayna wuu jiray oo waxa idaacadaha waxa jirtay idaacadii halgan waan garanayna way socotay wala dhageysan jiray oo way socotay haddana lama ogolayn waxaan ku soo gunaanadi lahaa waxa weeye waxyaalaha la adeegsan jiray hadii jeer waxa kamid ah marka ummaddu ay sameysay dhaqanka inaan maxay ka hor iman oo qeyd baa jiray marka dhaqanka oo dadkeena iyagoo ku faraya inaad
fikirto oo wax samayso ayaa waxay ku oranayaan nimaan dul marin dhaayala oo soco ha isku koobin inteeda ku kooban tahay adduunka la jaan qaad samee haddana way ku soo xadidayaan waxay ku oranayaan ha noqon dacawadii raadkeeda ka tagtay tii rasuulkana gaari weyday oo waxaanaad haysato tahatuurin waxaanaad haysato hatuurin horta waxaagan eego dee wixii kalena aad la imanaysa yaanu waxaaga kaa daadinin aad leedahay yaanu kaa daadinin oo mar walba dhaqankaagan hayso dhaqankaagan ha jiro laakiin de wixii ku darasee wanaagsanna keen xumahana ka ilaali waxaad moodaa waxaan kusoo dhinaca suugaanta waxaan ku dari doonaa laba erey oo samaynayo waxaa jirtay hadraawi baa wuxuu lahaa maansadii maxaa leeyahay sirta ereyga wuxuu markuu ka sheekeynayay waxyaalaha keenay wuxuu lahaa bani aadamku ka waramayay wuxuu soofka xoolahaba kaga soocan yahay weeyi markuu sheegaya dabar iyo silsilad haysa iyo suun madhaafaana wuxuu soofka xoolahaba kaga soocan yahay weeyi waxaan uga socdaa heedhe naftu seetayay waayi ha falin sidaa doonto ana falin sidaa doonto allah yacsi rashiid ana falin sidaa doonto macnaha wuxuu sheegayaa wax samee curin la kaalay ummadda wax u soo bandhig la wadaag laakiin mar walba ogow hana falin sidaa doonto waxa weye dabar inuu jiro wax dabar la ydhaa dabarku markaa dabarku wuxuu ka iman karaa shaksi bulsho iyo maxalee dowlad intaba uu ka iman karaa laakiin kaasaa ugu muhiimsan haddaan iyadoo kale ku daro maxaa ibrahim gallo kale kii lahaa magacaagu yuu noqon mid xumaan ka marakaca waxa weye iyada laftigeedu waxay ilaashanaysaa markaa wax soo bandhigayso magacaagaad ilaashanaysaa oo soo doosa iyo magacii ummadda aad matalayso kasoo jeedo samaynayso waxaan ku soo gobin lahaa haddii qofku is yidhaa ummadda wax u keen oo waxaasi aanay u cuntamin hadraawi baa laba erey kusoo goobay wuxuu yidhi weligaa ha tumin seefo iyo sabaradaha mawdka dar samaysan baa yaalla sancayahan gaboobaa sameeya marka haddaad leedahay maxaa yeelay waxbaan ummaddan u keenayaa dhiba oo sameeya horaa laynoogu sameeyey horaa u yaallaan qofkii raba ha soo qaato laakiin adigu waxaad ummadda u keenayso waxaad wanaajisay qurxisay wax u taraya halkay joogaan ka qaadaya horumar u keenaya dee ummadda u keen intaasaan kusoo waanu ka wada hadli doonaa insha raxmaan dambana asalaamu calaykum aad iyo aad buu u mahadsan yahay fu'aad sheekh dibna wuu inoo milicsiiyo na wuu inoo sameeyey taariikhda ka hor iyo taariikhda kadib intaba waxaan soo dhaweynayaa rashiid sheekh cabdillaahi xaaji axmed rashiid garweyne soo dhow rashiid waad dhowdahay waan ku faraxsannahay araggaaga maasha allah dhammaan akhyaarta kalena waan soo wada dhaweynaya insha allahu tacaala waxaan ugu talagalay waqtigan caadigiisa ku socdaa inaanu bilowga hore 3 aqoon-yahan dhegaysano sayid axmed oo ka hadlay bal tacabka ka baxa qofka baraaga iyo fu'aad oo guudmar inuu soo sameeyey faafreeb iyo Soomaali taariikhdeeda waxaan doonayaa bal hadda inaan 7 daqiiqo siiyo Cabdirasaaq Siyaad Axmed oo bal dhinaca diinta Cabdirasaaq inuu wax yar inooga sheego insha Allah taala iyo faafreebka بسم الله الرحمن الرحيم خيارتا ugu horeeyo saaxiibkay walaalkay maxamed xirsi guleed cabdi bashiir abu rashid shaah abdullaahi garaadadii dhaqanku inagala joogo cabdi casiis Sleevan afqarshe ragga kale akhyaarta dhamaantiin gabdha iyo wiilal odayaasha iyo aqoonyahanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ibafur ayaynu ku magacaabnay waayo mawduucii faafreebka safar anoo ku jira markii ay soo bandhigteen wuu sina ballaadhay waanu ka weyn 7 daqiiqadood iyo 7 saacadood labadaba uu ka weyn yahay laakiin maadaama ay ibafur tahay taxana inuu noqdo baa laga yaabaa wixii dambe oo dhan ay faalla ah faahfaahin waxaan u dhiganayaa kulanada dambe hadda waxaan baan eegayaa cinwaano amba qalinka guudkiisa wixii lagu qori karo baan eegayaa marka diiniga la yiri dad islaam laga hadlayaa mujtamac muslimana ama dawlad muslimana waxa la doonayaa inay ku wada dhex noolaan karaan dad iyada aaminsan iyo dad aan aaminsanayn laakiin doonayna ku hoos noolaadaan labadaba waana jiri jirtay xilligii nabiga kaleey salaatu wasalaam sidaas ay tahay mujtamacii nabigu aasaasay wuxuu ahaa mujtamac isagu waxyaalo u gaaraya astaamo lagu garto oo hayb umadeed leh isla markaana nabiga kaleey salaatu wasalaam aayadihii u dambeeyay la soo dejiyay xajjatul wadaa'i maalin carafa maalin jumca waxa kamid ahayd al-yawma akmaltu lakum diinakum markii ilaahay yiri diintiina maanta waan idin dhameystiray nicmadaydii waan idin taam yeelay islaamkaanan diin ahaan idin ka raali noqdo
waxa intaa ka horreysay oo culimadan cilmiga sociology-ga ama cilmi ijtimaaca markay ka sheekeynayaan noocyada faafreebku ciwaanku wuxuu ahaa faafreeb mise bilaa faafreeb marka waxaan doonayaa labadaba in yar ka taabto islaamku sidiisaba wixii wanaagee samaha ah haba yaraatee muu faafreebin iska dhaaf inuu faafreebeed taa cagsigeeda wuxuu aad u dhiirigeliyay in la faafiyo xitaa shaqada ambiyada loo soo diray nebi maxamed ugu dambeeyey calayhi salaatu wasalaam inuu wax faafiyey ahay tawxiidka faafiyo islaamka faafiyo dacwadan laguu sheegaya la gudanayana waa faafin sideedaba marka iyada lama faafreebo sideeda ayaa loo dhiirigelinayaa bal waxaa la diidayaa in qofku uu ka seexdo waxaa lagu dhiirigelinayaa oo ka mid ah balliquu cannii walow aayadna allah ka dhigaya bal wuxuu niga gaadhsiiya ummadda oo faafi baa lagu odhanaya xaggii samafalkii saarixuu ilaa makfira ilaahay u baratama buu leeyahay mar wuxuu leeyahay falyatanafas ilmutanaafisuun ha loo tartamaa la leeyahay waxaa la leeyahay ittaquu naara walow bishiqi tamra naarta bal wuxuuna iska xigsiiya xabad timira jeexeedna allah ka dhigee sabaqa dirhamu 100 dirham oo qofkii sadaqada bixinayay marka horta waxa la faafreebaa waa fasaadka iyo xumaanta iyo wixii amniga dadka iyo noloshooda iyo sumcadda diintooda iyo dhaqankooda wuxuu dhimayee khayrku faafreeba isagu horta ma galo marmar keliya ayaa xoogaa dabarkaa uu faad sheegay gabayga uu ku saabsanaayo kale u yar baahan yahin la yar xidho waxaa ka mid ah atharkii laga soo wariyey cali bin abi daalib ee lahaa khaadibu nnaasa calaa qadri cuquulihim dadka kula hadla intay garashadooda iyo garaadkoodu gaadhayo atuxibuuna an yukadaba allah warasuulu ma waxaad jeceshihiin ilaah iyo rasuulkiisa in la beeniyo oo haddii dadka aad u sheegto cilmiyada qaarkood waqtiyada qaarkood heerarka qaarkood markay marayaan waxaa laga yaabaa natiijadii laga fulaya cagsigeedu inuu soo baxo adigoo waxaad sheegaysana khayr ahaa marka in loo meel dayo hadalka loo miidaan dayo iyaduna way jirtaa waxaa jira waxyaalaha idinku malaha buugunba hadda la sheegayo markii aan qaybtan faranjiga ka eegay kitaabna uu kusoo waran yahay iclaanka qoraalkii sayidna buugbu ku saabsanaa laakiin sidiisaba malaha qolyahan faranjigu ku cusub yahay faafreebkiyo innaga uu ka horreeyey oo dhowr noocba 3 nooc baan ka sheegi doonaa mar haddii ciwaano lagu ekaanayo qaamuus ahaan markay sheegayaan faafreeb markuu yahay qeexayan waxay dhahdeen waa the supervision or prohibition of any parts of books films news etc that are considered obscene politically unacceptable or a threat to security waxa la wax kastoo amniga khatar u dhigay khatar ku keenaya in amba la faafreebo amba ha ahaado film amba buug amba war in la tafiftiro oo la faafreebo ayay markaa iyagu ku sheegaan waa regulation caadiya iyo xeerar ay samaysteen inaga laakiin teenu way ka xeel dheer haddaynu ummad muslima nahay amba ciddii ku hoos noolba sharciga islaamku meel saro ka soo bilaabay oo markii horeba waxaa qof kala saaray kelmad uu ku sheegay raggan qeexaya cilmigan ijtimaacu inay 4 u qaybiyeen imise nooc noqon karaa faafreebku waxay ku sheegeen mid inay ku sheegeen arraqaaba arrabbaaniya oo carabi ahaan markii faafreebkii raqaabo uu noqday in qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isagu marka hore raqiib yahay oo isagu addoomihiisa uu isha ku hayo oo uu eegaya camaladooda diiwaangelinayo kala xisaabtamayo ku daba jiro isla markaana aanay ka dhuuman karin waa noocyada ugu adaga faafreebka markaad rabbigii aad aamintay tiri ilaahay adiga ii rabbiya waxaad ii ogasho quraan samaynaya wax alla wixii aad iga reebtay way iga reeban yihiin dee faafinteedina way iga reebantay baa iyaduna automatically halkaa usoo gelaysa marka arraqaaba rabbaaniya ayuun baan caawa jeclaynaa wixii dul istaago kuwa kale arraqaaba daatiya waa ta ugu wanaagsan ee mujtamacii muslimku ku caanamaalay oo ah qofku inuu isagu self discipline wax la yidhahdo isku sameeyo isagu isfaafreebo intaan cidaba u imanin oo ixsaankii iyo darajadii addoonnimada ta u sarraysaa lagu sheegay inaad ilaahay u caabudo inuu ku arkayo kale an tacbud allaha kaannaka taraa inaad adigu arkayso kale waayo haddaanad arkin isagaa ku arkaya waa darajo aanay weli malaha isleeyahay imaniba aadanka kale muslimka ahayn weli may dhadhamin macaankeeda inuu qofku shay kastoo xun isagoon ganaax ka baqanayn isagoon maxkamad ka baqanayn isagoon kamarad ka baqanayn inuu ilaahay keliya uu ka dhowrsado isagoo markaa xumaantii iska faafreebo waxa weeyaan waa ta ugu sarraysa riqaabat ri'aasiya jirto oo qofku wixii uu mas-uul ka yahay inuu isagu markaa faafreebo oo xumaanta inay faafto uu ka reebo wanaagana uu ku dhex faafiyo oo ay ka mid tahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati qof kasta marka la leeyahay mas-uul buu yahay guriguu ka bilaabmaa qoyskuu gaadhaa qarankuu gaadhaa qof walba mas-uuliyadda baa la qaybiyey marka mid walba wuxuu qofkaasi uu faafreeb ku samaynayaa inta uu mas-uulka ka yahay oo uu xumahana ka qabanayaa inuu ajarna ka helayaa hadduu xumaha ku eegana wuxuu gelayaa magaca kale dayuus la yidhaahdo waa ninka alladii yarda alkhabata liahli hadduu ka faafreebi waayo qoyskiisa xumaanta marka isaguna dayuus buu noqonaya dayuuska ciqaabtiisina waa jannada inaanu gelin waxa markaa ugu horeynaynaa taa koowaad inta kale ciwaanaduna kasoo qaadan doonaa tay rabbaaniga ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlayey in allaha kaana calaa kulli shayin raqiiba ilaahay wax walba ishuu ku hayaa wuu arkayaa wuu eegayaa markaa raqaabad buu ku hayaa iyo faafreeb ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu la hadlayay qofka muminka ah inuu ogaado ilahay inuu arkayo wuxuu yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur
xitaa adigoon hadal waxay laabtaada ku sheekaynayso waa halka u sarreysay ee la gaari karo weeyaan wax aanad weli ku hadal ood ku hamiday ayaa laga doonaya qofka muuminka raqaabada noocaasa iyadaa ka xoog badan tay maamaladu samaystaan ta dowladaha amba dowladdu ha gacan ku laata amba ha qaboowaatee mar baa jirta addoonka muuminka aan macno u samaynayn waayo raqaabada dowladda ka weyn baa isagu isa saaray oo isagu uu doortay uu ku qanacsan yahay jannana ku doonaya waxaa ka mid ah addoonka muuminka inuu niyadda ku hayo in la yidhi maalinta qiyaame laa tazuula qadama cabdi yowma alqiyaamati min cindi rabbihi xataa yusal can 4 afar shay in la weydiin doono isagoo og ayaanu tallaabo qaadin ilaa uu tallaabadaa u kitaabdayo oo u buuga u furo oo u eego waxaan ma ku dambaabayaa khayr intee leeg baan ka helayaa haddaynu markaa raqaabada rabbaaniga eegno mid kala jirto la yidhahdo raqaabat alxisba mid isagu qofka xiskaa wuxu qabsaa isdiro oo mutadawacnimo ah oo uu aqoon uu leeyahay oo laba sharti ku xidhan tahay inuu waxaan dadka uu diidayo ka reebiyo ka faafreebayana aqoon u leeyahay cadaaladna ay ku dhisan tahay dulum la soconin laakiin hadday raqaabadu ay xambaarato labada magac ee ah aljahl wadulm markaa waxay yeelanaysaa magacyo kale aakhirana waa laga xisaabtamayaa ifkana magac laguma gaadho meel qofka ma geyso marka waxaa jira haddii buug laga hadlayay anigu waxaan jeclay inaan yar ballaadhiyo mawduuc waan idiin sheego u ballaadhay ma noqonayo yani wax 7 daqiiqo lagaga hadlo ciwaanadan jeclahay waxaa ka mid ah inay raqaabadii isa soo galeen iyo amr bilmacruuf wa nahy can lmunkar oo macruufkuna uu faafin yahay marnaba aan la faafreebayn munkarkuna uu mar walba yahay qofba awoodiisii man ra'a minkum munkaran falyuqayyirhu biyadi qof gacanta ku qaban kara oo ku faafreebi kara qof afka ku faafreebi kara qof ay tamari meel dhigtay oo qalbigun ka nici kara wixii xumaanay faafaya oo isagu faafreeb samayn karin ayaa ugu horeeya dadkii hore wanaagsanaa in laga faafreebo xumaanta laga qabto way ku faani jireen cumar ibn khadaab wuxuu odhan jiray raxima allahu imra'an ahdaa ilaya cuyuubi ilaahay u naxariisto qofkii ii sheega waxaan ku khaldanahay aayad quraana jirto faafreebka sida tooska uga hadlaysa dadkana ka ilaalinaysa ka reebaysa inay faafiyaan wax dhibaato keenaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay waidaa jaa'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adaacuu bih dadka hadduu u yimaado arrin ammaanka ku saabsan amba cabsi keenaya amba amniga dadka wuxuu yeelaya qaarkood adaacuu bihi way faafinayaan ilaahay taata ka duwan buu sheegaya wuxuu leeyahay walow raduuhu ila rasuuli wa ila uli al-amri minhum lacalimahu alladina yastanbiduunahu minhum hadday u kaadin lahaayeen oo markay war maqlaan dhiila keeni kara amba xanaf leh amba dadka muslimiinta niyad ku ridi kara amba gelin kara dagaal aan geli karin oo dandaansi keeni kara wax kasta oo amni iyo khoof ku saabsan hadday u celin lahaayeen rasuulka hadduu maqan yahay dadkii aqoonyahanka ee culimada diinta ba halkiisii fadhiye iyo dadkooda taladooda haya kuwooda aqoon talabaa soo ayaa u sheegi lahaa goortay tahay in waxaan la faafiyo iyo goorta la faafreebayo goorta dib loo dhigayo iyo goortaan dib loo dhigayn laakiin haddii ay social media iyo xarkaha goostay qofkuna wuxuu doonana qorayo cidina aanay ka qabanayn waxa markaa isaga qofka muuminka la xusuusinayaa marduu iimaan yahay in ilaahay subxaanahu wa ta'aala wixii xaggiisa ka yimid aanu dood ka keenin aanu odhan maxaa lay faafreebayaa kol hadduu sheegana diinta ka hor imanayo waa inuu qaataa aayadda ilaahay yidhi wamaa kaana limuminin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyara qofka muuminkii kol haddii ilaahay iyo rasuulkiisa xukun soo rogaan doorasho inuu yeesho maha waa inuu ka hadhaa iyo aayaddii kale ilaahay subxaanahu wa ta'aala mu'miniinta ku ammaanay yidhi inamaa kaana qawlu lmu'miniina idaa ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa waadacna inay markaa ay joogsadaan dadka caadiga ee mas-uulka tahay saad u faafreebayso nooc baa jira faafreeba oo la doonayo qofka muuminka hadduu darajadaa gaari karo inuu xitaa naftiisa geed ku soo xidho oo waata uu qofka daalimka ah ee awooddana leh doonaya runta inuu sheego naftiisu ku waayi karaa laakiin nebiga muxuu yidhi sayidu shuhadaa xamsata bin cabdilmutalib shuhadada waxa u sarreeya xamsa u sarreeya oo nebiga adeerkii ahaa iyo warajulun qaama ilaa suldaanin jaa'ir fa amarahu fanahaahu faqatalah waa qof faafreeb ku sameeyey madaxweynihii dhammaa amba boqorkii dhammaa oo iray xaaraana oo fasaad uu faafinaya ka faafreebay isaguna ku mutaystay in la dilo waayo ninkaa lama odhan wuu dilay laakiin waxa weeyaan wuu runta u sheegay mar baa jirta aanad xaqa ka aamusi karin oo asaakitu can alxaqi shaydaan akhras mar baa jira aad munkar arkaysa sida hadda aan kuu sheegay oo sugaantii waa kii ninkii lahaa haddaad dhimatay geeridu mar bay nolosha dhaantaaye dhaqashiya mar bay kaa yihiin dherigu xaaraan waa ninkaa shahiidka ah ee doonaya maanta noloshii inay ka qiimo badan tahay inuu geeriyoodo waxaa kaloo aan jeclahay in kusoo gabagabeeyo cumar ibn khadaab wuxuu odhan jiray khayr idinkuma sugnaanin haddaan noo sheegi weydaan khaladka annaguna khayr ma lihin haddaan warkiina qaadan weyno marmar baa jirta raqaabada ama censorshipka la siyaasadeeyo dowladihii ilmaadeerka ayaa kala dambeeyey ilmo umaye ilmo cabbaas markays qabteen bani umaye oo bani cabbaas waxay sameeyeen inuu midna wax raqaabo ku sameeyo censorship ku sameeyo kii kalena uu ka qaado fasaxo oo odda ka qaaday marar baa jirtay si dadka loo jeclaysiya ammaanta nimanka abwaanada gabayada la odhan jiray dahaba loogu miisaamo waxaa jira culamo lagu sameeyey faafreeb iyaga kutubtoodii oo uu ka mid yahay sheekh lislaam ibn taymiya 7 jeer buu kutub uu qoray xadhig u mutay
kii u dambeeyana waaba ku dhintay isagoo meydkiisa baa laga soo qaaday waxa lagu dilayana waxay ahayd ijtihaad oo aqoon u leeyahay oo dadkii barigaa joogay iyo ururdiimeedyadii ay hayeen ay dowladda kala hoos galeen waxaa ka mid ah Sacuudi Arabia 79kii inqilaabkii ururdiimeedkii Jahaymaan markuu dhicisoobay culimo badan oo la faafreebay kutubtooda waddankana laga saaray Sheekh Naasiruddin Albani baa ku jiray Sheekh Muqbil Alwaadici baa ku jiray waxaa jira Soomaaliya kale xisbiga shuuciga markuu yimid tafsiirkii Sheekh Maxamed Macallin aad buu u dhibsaday kacaankiina wuxuu kala taliyay in la joojiyo oo dabeedna waa tii lagu tuuray 20 jir oo lagu tuuray faafreebku marka uu ka balaarayay wax amba 10 daqiiqo lagaga hadli karo ciwaanada halkan ugu qoran aad bay u fara badan yihiin Axmed ibn Hanbal baa kamid ah khalqul Qur'aan dartii loo faafreebay inuu wax qoro laga mamnuucay inuu jamac iyo jamaacada dadka loo diiday waxa kamid ahaa markii Soomaaliya kale la oran jiray qofku inuu aamusay laga baqanay seefta kacaanku shaqeynaysay hal hays baa soo baxay oran jireen ama afkaaga hayso amba afweyna raac amba afgooya aad bis saddexaad mid afraad ma jiro inaad aamusnaato sidii shaacirka Carbeed buu yiri azamanu zamanu sukut wa mulazamatu albuyut wa man qala alhaq yamut laakiin waxa la doonayaa qofku markuu qalin ka qaato inuu ogaado ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid dadkiisa waa inuu turaa waxaan uu qoray in laga qorayo ilaahay malaa'ikada ku qoraysa waa inuu ogaadaa hadday samatahayna uu faafiyo aqoonna u leeyahay cadaaladna ay ka tahay cilmina u leeyahay hadday xumaan tahayna aayadda quraanka uu qaato u celiyo rasuulka iyo culimada waqtigii waan dhaafay waan filayaa waxaan jeclaa inay noqoto uun ibafur laakiin intaa qodobaan sheegay iyo laba xaashido kale oo ii qoran oo buuxa dhammaantood mid walba wuxuu u baahan yahay habeen gaar laga hadlo laakiin waa intaasan kaga baxaya assalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرزاق سياد عبدي هذه هذا ما تصنتها كنتي وان بوسي داي وان على استمرار سقور بدن بعد أنا وان على استشنتي سقور بدن نواد وجهدش نعيا بدن نواد كتها تاوتي وان دوني ونعيا عن ربعين بالشوين تا ولا هتشوف تقولوا أي إحنا جابيريان صوت إنه إيه فرينا موضوع إنه حوي إحنا جرينا وقت كلا هذا وقال الله سبحانه بعد المسوي رسم بنك صناعة كلوشري dadku waxay u soo aqoonti baa korodhay buugaag baa la qorayaa maamuladii awoodihii baa soo xoogaysanaya oo markaa maarata baawarkii baa soo noqonaya in maxaan ku rahdaa wax badan lama qori jirin berigii hore oo imika markaa maadaama dadka doonayaan wax qoraan xataa mar bay bulshadu faafreebaysaa oo lagu odhanaya markaa maaragtay dhoweyto waxay ahayd isla isbuuc bishii hore waxaan arkay gobol ka mid ah dhulalka Soomaalida oo nin qolo buug la haystay buugga waxa lagu haystay nin madax ahaan jiray baa ku sheegtay dagaal ooga markaa hal maaragtay waana wax laga yaabaa qiso caadi oo aynu caadi ugu sheekaysano hadalka mariyay buugga markuu qorayay marka waxyaalo badan baa iman doona kan waxyaalaha aynu ka hadalno runtii dhinacyo badan iska taagno diini iyo taariikh iyo dhinac walbana waa muhiim marka waan soo dhaweynayaa idinku aad mahadsantii sayid iyo fuaad iyo cabdirasaaq bulshada kale doonaya inaan hadalka wax ka siiyo runtii doorkan haddii marad badan oo kale waan isku soo noqon doonaa waxaan soo dhaweynayaa Dr. Shaamus halka ka arkaa Dr. soo dhawow waan ku faraxsanahay araggaaga iyo in laga qayb barnaamijka nala joogto iyo dhammaan khiyaarta kale Rooble iyo guuleedina Maxamed iyo dhammaantiinba waan gacanta taagi kartaan cidii doonaysa in markaa mudaakhalo samayso ama ha noqoto su'aal ku socoto qorayaasha aqoonyahanka ama ha noqoto guud ahaan faallo guud oo ku saabsan mawduucaas iyo aqoon la isku soo biiriyaba qofkii markaa gacanta taagi karana meesha maaragtay Rashiid baan soo deenayaa Rashiid Xaaji Sheekh Cabdilaahi qofkii kale gacanta taagi karana waan soo dhaweyn doonaa markaa Rashiid baan ku horeynayaa Roobland ku xigsiinaya insha Allah soo dhawaada codka iska qaada Rashiid بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قديقين بقى عن إله شيخ عبد الرزاق هذا الكيسي آدي عدبانو جعلي ستي فافريب مركا الله يرحضو سيدا قمان أي تهينو هادو حاجة دين مركا لغا يمادو يا حاجة مقرنسة nolosha waaqica marka laga yimaadaba uu ka hadlay si wanaagsan baan uga hadlay labadiina wuu iswaafajiyey taasaan ku sii jeclaystay runtii anigu hadalkaygu ma badna haddii mawduucu sii furaado maalmo dambe laysu yimaado waan u soo diyaar garoobi waantun baan la kulmay inuu hawshani ay jirto doodeedna weliba mar dhoweyd bay ahaydoo waxaan waa bilka gaadh
weliba waxay ahayd salaadii maqrib aniga oo weysays markaan weyse u kacay ayaan arkay aanin yar dib ugu noqdo bal anigu intaan ka warhayo ereygan faafreeb iyo waxa dhalay duruufta dhashay iyo siduu ku yimi oo aan anigu soo joogay waqtigii siyaad barre waxaa jirtay waxa la yidhahdo sanjuro of talyaania censorship oo ingiriisiya afcarabiga ciidamo berigaa ma isticmaali jirin ereyga riqaabe hay-ad baa jirtay uu siyaad barre sameeyey marka waxa la wixii qoraala riwaayad gabaya waxa la wixii fikiraha bini aadamka ka soo baxaba xataa saxaafada adduunka wararka ka yimaada suuqa lama soo gelin jirin lamana fasaxi jirin ilaa ay soo maraan arkaan riwaayado badan oo la joojiyo la gebigoodaba lama dhigi karo ayaa jiray sanjurada daraaddeed faafreeb er la yidhahdaana ma jirin ereyga faafreeb la yidhahdaa ma jirin iyana ma isticmaali jirin waqtigaa wuxuun baan xusuustaa meeshaan ka shaqayn jiray waxaa noo iman jiray majallada ayaa nooga iman jiray caalamka masalan newsweek iyo timetii maraykanka ka iman jirtay iyo adaliica mid la odhan jiray oo bilo ahayd oo kasoo bixi jirtay masar iyo joornaallo kaloo masar kasoo bixi jiray iyo marka joornaalkii baad kala bixinaysaa maqaal baad jeclaysanaysaa cinwaankaad odhanaysaa maqaal ka akhriso oo waad kala bixinaysaadoo cumuud dhan kolon daloola ayaad arkaysaa kaasoo qoladii baa goysay wax la wax ku qoraan garamaysato sano waxaanay qoonsadeen ka gooyeen muxuu ahaa waxyaabaha ay ku daran markaan anigu la kulmi jiray ka xanaaqi jiray taasaa ka mid ahaa riwaayadan anigoo gelin la joojiyo gebigeedaba la joojiyo dee laba joojiyo mabaan aragba filimadana saa si leeg bay haydo way googoyn jireen filimada intaanay soo dayn qaarna waabay joojin jireenba lagula hadli maayo oo lagu odhan maayo waxaasaa la diiday waxaa laga yaabaa haddii lagu odhan lahaa waxaasaa lagu diiday inaadba waafiqi lahayd oo caqligaagu odhan lahaa layna waxaas wax la joojiyo waxaas waxun waaye khaasatan filimada oo kaleta iyo filimadaas wax sawirro xunxun oo maaragtay dumar qaawan iyo dad sariir dusheed isku fuulaya iyo waxyaaba caynkaas oo in la joojiyo ay tahay dawaabay si qaadanayno ciidamada diideen intaas in laga saaro filimka cala alcumuum waqti dambe waxaan u malaynayaa inay ahayd 76 mid ahayd ma xusuusto waxaan ka shaqayn jiray guriga ummadda xisbigii hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed oo uu sheekh cabdirasaaq markii dhaweeyay shuuci ku sheegay ayaan ka shaqayn jiray hogaamadiisa mid ka mid ah maalmaha ka mid ah baan waxaan xusuustaa waxaan noo yeedhay aniga niman kale oon u malaynaya inuu ka mid ahaa kulliba meeshaan ka wada shaqayn jiray boowe yuusuf ducaale ayaa uu noo yeedhay maxamed aadan sheekho noogu madax ahaa hoggaankaanu ka shaqayn jiray marka faafreebkaasaanu ka hadalnay faafreeb markaa ma jirna riqaabadaasaanu ka hadalnay deedna wuxuu ihi faafreeb baynu bixinaynaa maxay idinla tahay wallaahi waa arrin macquulaba maxamed aadan sheekh allah yarxamo ilaahay u naxariistay waa ninka muxuu ahaa hadda reer Hargeysa ay ku xusuusanayaan isbitaalkii Hargeysa qaybta carruurta ee lagu kordhiyey waa ninka muxuu ahaa markii ay tiisii soo dhawaatay ku dardaarmay lacag mucayan oo malaal xoolihii markaa uu ka tagay ahayd halkaa ugu tabarracay isbitaal halkaa lagaga dhiso weliba Hargeysa gaar u doortay koleyba uun Somaliland u doortay dhinaca nabadgelyada iyo deganaanshaha markaa uga muuqanayay buu ku doortay wuxuu ahaa runtii allah yarxamo nin aad u wanaagsan buu ahaa ilaahay ha u naxariisto magacu ninkaasaa uu ka yimi asalkiisu waxaan la yidhaahdo faafreebku halkii uu sheekhu yidhi baan ka taagnahay waxa weeye qofku damiirkiisa iyo qalbigiisa iyo iimaankiisu inuu hoggaamiyo oo uu isagu wixii xumaana wixii gaf ah wixii ummadda waxyeelaya wixii noloshan iyo adduunkanba wixii waxyeella ku ah inuu carabkiisa iyo gacantiisaba ka dhowro oo isagu isceliyo faafreebka ugu wanaagsan horta waa kaa markay cid kale kaaga imanaysana in si wanaagsan oo hufan qaladkaad ku jirto fikradda qaldane aad wadato ama aad faafinayso
in lagaala doodo oo laguu sheego oo la yidhahdo sidaad sheegayso sidan iyo sidan baa ka quman taasina waxa weeye waa waxa ugu wanaagsan ee faafreebka lagu samayn karo caqliga bini'aadamku marka uu isu furan yahay hadda eeg markuu caqligu isu furan yahay ee uu caqligu doodayo ee weliba markaa laysula noqonayo wixii qiyam iyo akhlaaqiyaad jira ee dadka ka dhaxeeya markaasaa uu faafreebku uu faa'iido leeyahay mana aha faafreeb waxa weeye waa wax isu sheeg waxa weeye runta oo laystusayo runtu marka ayna dhex taallo ee ay ina dhex qaadayso markaasay waxay inaga celin kartaa beenta iyo xumaha oo dhan laakiin haddii masalan la iscaburiyo oo la yidhaahdo ma hadli kartid lagugu yidhaahdo oo waxaad arkayso lagu yidhahdo ma sheegi kartid oo xaqiiqa aad og tahay lagu yidhahdo ma sheegi kartid xaaladda ka dhalataa waxa weeye warka kuteenta ayaa bata beenta ayaa badatoo xorowda oo dadka aad u dhex qaata beentana wuxuunbaa burisa runtaa burisa marka faafreebku hadduu ka yimaado suldad dhexe oo karbaashaysato wax ku karbaashaysa dadka masalan sheekh wuxuu inoo sheegay markii dhaweytoona aad u jeclaystay mowqifkii radiallahu canhu cumar ibn khadaab halka ay tahay mujtamaca wanaagsani halka uu ka dhismi kara waa fikradda cumar ibn khadaab waxa weeye itoosi laakiin suldaddu hadday tidhaahdo anigu mar walba sax baan ahay sidii tiisiyaad barre wixii aan idhaahdaana waxa weeye biyo kaba dhibcaan wax taydaa ka duwanna cidi ma odhan karto waa markaan markay musiibadu imanaysa wax tayda ka duwanna cidi ma odhan karto ciddii wax tayda anigu aanan jeclayn tidhaahdaana dembi bay gashay markan bay noqon markaan faafreebku isu bedelayaa shar buu isu bedelaya waxaan ku soo gebagabeynayaa waxa weeye bini aadan baynu nahay ilaahay wuxuu inugu galladay ee ugu muhiimsani waa laba wada socdoon kala furmin waa caqliga xumaha iyo samaha iyo xumaha kala saari kara iyo xorriyadda in aad doorato wanaagga inaad doorato haddii caqligu kaa tago dee qof walan baa tahoo waxba xelba kuma saara ilaahay hortiina waxba dembi ku raaci maayo laakiin haddii adigoo caqligaagii qaba lagu khasbo xaalad ikraah hadday timaado ikraaha waxaa ka dhalanaya xagga ilaahay waxa weeye xataa haddii kufri lagugu ikraahiyo dee dembi ma lihid wanaaggana lagumaba ikraahin karo waxa kugu filan qofku markuu caqligiisa leeyahay mujtamac wanaagsan oo caafimaad qaba oo qiyam wanaagsan ku wada dhaqmayo oo ay quwadihiisu isceliyaan oo integrated yihiin iska milayaan oo aan colaad iyo shardhex oolin oo aan kala shakisanayn markuu mujtamacu qofku markuu ku dhex nool yahay bayda wey marka hadallada caynkaasa waxaan u noqonayaa cilmigiiaan kusoo takhasusay sociology buu ahaa sheekhuna waa kii markii dhaweyto soo qaadayay mujtamacu marka uu yahay mujtamac mutakaamil ah ee ay isu hayaan qiyamta wanaagsan marka waxa weeye qofku uma baahna suldad intay dusha kaga timaado wanaagga ku karbaashtaa waa taqaanaa waad wada og tihiinoo dee adigoo qaawan halkaa ma socon kartid waxa kugu filan warda waa lagula yaabayaa xishood waynu isnidhaahnaaba maalin walba isha dadka ayaa kugu filan oo kugu riixaysa ku faraysa inaad wax wanaagsan samayso marka mujtamac wanaagsan dhismaha mujtamac wanaagsan waa muhiim intaynan riqaabiyo waxba toona aadin tarbiyada carruurta ubadka korintiisa akhlaaqdiisa in qiyamta wanaagsan lagu rabeeyo in qiyamta diinta islaamka lagu rabeeyo lagu koriyo aqoon iyo cilmi in la yeesho in deetana mujtamacaasi mujtamac caadil gudihiisa cadaalad gudihiisa ka jirto qof walba cid walba xuquuqdeedii ay halkeeda ku helayso marka faafreeb waxaan uga baahanaynaa ma jiree waxa weeye isu sheega dacwada iyo isu sheegidda iyabaa qofka ku filanaysa qofka oo damiirkiisa isagu marka uu damiirkiisa hogaamiyo iyo
isha mujtamaca oo qof waliba ilaalinayo mujtamacu isaga is ilaaliya wuxuu isku ilaaliya waxa weeye war dadku had iyo jeer magaca waxay kugu siinayaan waxa weeye inaad suluug wanaagsan leedahay inaad si wanaagsan u soconayso dhaqan wanaagsan dadka kula dhaqmayso taasaa magac iyo sharaf ku yeelaysa marka ay tahay faafreebku waaba kaaba ku dhantay waan ka baxay aad iyo aad oo ku daayay Rashiid Sheekh Cabdullaahi runtii oo u baahnayn maaragtay ereygii faafreebba meeshu ka yimi halkan agteeda jooga marka insha Allah kulamo dambaynu kulanka maanta wayno iba fure waynu sii wadi doonaa barnaamijkan oo marar badan baynu ka hadli doonaa mahadsantahay jazakallahu khayr gacmaha taagan marka waxaan doonayaa inaan gacmaha taagan roob lagu iska dhigay gacantiisa aan maraynaya marka Maxamed Marti soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا توصل لي سؤال شيء وحشلا جرناي فافريب كوينا أنو أنتي سبب واحد وناكسنا هين أمين الحديد قفك يفرق كردي سيو هذا وناكستو بالشيء خير الله ده لكن سي فافريب كنوعي أهبين أبا هنا يتشال أخان كانوا حقوري إنه سبيش لما كيت معدو فافريب كواحد برشة educational censorship كا إلا حد يبين أبا هنا بان تعلينا فيديو dadka aqoonyahanka meeshan jooga faafreeb noocaynu uga baahannahay keebaa bulshadeena anfacaya maadaama inahay bulsho qabiil ahaan structurekeedu yahay bulsho dagaalla ka soo baxdo imka iska koraysa bulsho magarasa vulnerable waxyaalo fara badan oo ah faafreeb noocee ah bay u baahan tahay bulshadaasi innagoo aan ku doodayn aragtida freedom of expression laakiinse maxaynu u baahannahay si aynu magaranaysaa wixii wanaagsan ee bulshadeena maskaxdeedii hadii ay xukmaayo kobcinayay korinayna aynu qaadano wixii magaranaysaa interestkeeda ama wada noolaansheeda ama wada jirkeeda ahaana magaranaysaa ka hortagaya sidoo kale maadaama iskuuladeeni ay ama dugsiyadeenii waxbarashada ama nidaamkeenii waxbarasho aanu ahayn mid governmentally dawladdu ay gacanta toos ugu hayso oo 1050 manhaj oo kala nooc lagu wado faafreeb noocee baynu uga baahannahay sectorka waxbarashada ee dalkeena si aynu ula soo baxano jiil aynu rabno inay inaga turjumaan bulsho ahaaniyad ahaan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu su'aal aad u qiimo badan buu noo weydiiyey maxamed Shucayb marka su'aashaas oo cidi ka jawaab soo qoranaysa insha Allah taala waxaan yar wadayaa su'aalaha iyo faalooyinka marka heer saraan soo dhaweynay maxamed qoraaga Cabdishakuur Maxamed heer sare السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan u salaamayaa daadiyaha maxamed xirsi guuleed iyo madasha yaad Rashiid Garweyne ma sha Allah inagu soo biiray aad baan u faraxsanahay faafreeb horta waxa weeyaan dadka sida Cabdirasaaq baan aad iyo aad uga helay sidoo uu sharxay المسلم من سلم المسلمون بلسانه يعني waxaad arkaysaa in qofka islaamka isaga faafreeb ku jiraba yani qofka marka loo diiday inuu dad dhibo inuu dadku magsaday inuu yani qofku inuu xad ka dhaafin islaamnimadeenu waxa weeyaan sida u dhisan tahay waxay ilaalisaa qofku inaan cid kale dhib u geysan inuu cid kale taageero haddana la waayi maayo bini'aadamku markay nool yihiin afkaartan furan iyo aragtiyahan iyo dadku inay dooda yeeshaan in waaqaca laga hadlo in aragtiyo la soo kordhiyo marka aragtiyahaas u baahan in wada la mariyo oo marka kolba ay moogtay deyn waxyeeladeedana moogtay laga hortago sida ku dhismaysanaa in la eego anu markaan faafreeb waxaan malayaa in wadanka Maxamed jooganay Sweden waxaan manayaa 1766kii wadalkii ugu horeeyay ee sharci faafreeb sameeyay marka yani marka taariikhda faafreebka la eegayo marka waxa dareemaysaa kun iyo waxaan malayaa 399kii buu Greek yani dhaqdhaqaaq ka soo bilowday marka waa markay soo shaacabaxayeen aragtiyahan filosofiga inuu qofku khiyaal wax ka fikiro inuu magarasa bulshada afkaar la wareego marka afkaar baa jirta dadku aanay qaadi karin afkaar baa jirta aan xilligeedii la joogin afkaar baa jirta yani qofku oranayo ilaahay maba jira itus marka mugti waa afkaar mugti qofku keenayo marka anigu waxaan u fiirsaday dhaqankeenu waxa islaamnimadeena aad buu ugu dhow yahay yani waxaad arkaysaa in suugaantina markaad ku noqoto sidoo faadba sheegay dhaqankeenu waxa uu ku sameeyaa inuu yani faafreebo suugaanteen xusugu cabiri jirnay yani in xakamo loo sameeyo ana dadka aafa u geysan
واتقانا تدعى عانك أفكو حل حوبي هاي مقلق حوضة كاترة مربا يعني وحن سكودي inaan yar fududeeyo markaasaana waxaan hoos dhigay yani waxaan siriim ka damala magligi iyo mukooba la isticmaalay waxa weeyaan waxna waa la qoraa marka waxaan ku yar kabay ereygu wuxuu la awood yahay ka wax maaruqa wogdaayin waa maxamed xuseen oo deegaameyntii aqoonta ka mid tahay in suugaantii yani imka maadaama wax la qorayo qoraalku saameyn yeelanayo in qofku xilisi saaro mas'uuliyadiisa saaro qofku wuxuu doonaa inuu iska qorin dhacdo yar baan ka sheekaynaya aniguna saxaafadda in badan ka shaqaynayay baan ahay dal ay dagaal ka dhaceen oo aafooyin ka dhaceen oo qofku u baahan yahay inuu aad u taxadiro wax badan ilaaliyo wax badan aanu iska sii dayn yani aafo badan u keeni karo marka waxaan ka sheekaynaya anoo intan ka yar ayaa wafdi madaxweynaha raacay marka geed baana lagu marti sooray marka caanaha naloo keenay marka kamarad aniga iyo wax sawirayaba iyo TV-ga qaranku markaa socday waa madaxweyne Soomaaliland soo maray marka waxaan arkay madaxweynihii aan sawirka ka qaadayo koobkii bixda caanihii ku cabaya marka yar shucuur ahaan waxaan yar xasuustay moogtay deyn aadaabtii islaamka qofku moogtay deyn waqti midigta lagu cuno marka kamaan gabanay inta madaxweynuhu ku yar dhawaada waan ku madaxweyne sawir baan ka qaadayaa midigta ku qabso marka wiiladooda gacmuhu waa isku mid iyo moogtay marka hadana ismaan dhiibin waayo waxaan ka fikirayaa waxaan hay qofka kaliya ee sawirka qaadaya sawirkaasina uu saameyn yeelanayo marka waxay noqotaa anigu inaan horta xilkayga aanan ka gudbin ama inaan sawirka saa ku daayo marka madaxweynihii wixii arkay inaan ka saxanahay marka wuxuu ku qancay inuu koobkii midigta ku qabsaday anaa sawirkiisa kaga qaaday marka waa mas'uuliyadaha ay tahay moogto qofku deynaan oran chance bay ku tahay ka faa'iideyso marka hadalka kuma dheeraanayo waa sala sheegay waa iba fur waana waxaan jecelahay waana dood xilligeeda timo insha Allah waana inoo soconaysaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad baad u mahadsantahay Cabdishakuur waan su'aashii wali maxamed oo inoo taagantahay laakiin waxaan soo dhaweynayaa Roble Maxamed oo gacanta taagay mala gacantuna mar hoos uga dhacday soo dhaw maxamed aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamed iyo inta soo agaasintay kulankan raalliga hada waan shaqan ku yar jiraayo deetana waan iska hayn kari waayey yani mawduuca la runtii mawduuc muhiima buu ahaa anigu in faalla baan isleeyahay ku yara darsan laakiin su'aalaha ma aha su'aalo aan doonayo in laga jawaabo laakiin in laga fekero mar haddii dee qaar kale la qabanayo laakiin waxyaabood magaranaysa la xidhiidha maxaan ku dhahdaa arrinkan iyo faafreebka la xidhiidha laakiin ay tahay inaynu isweydiino horta mid baa jirto technology-gan waxyaabuhu fududeeya wax ka mid inaan waxba la faafreebi karin oo qofka maanta wax laga qaban karaaba inaanu jirin oo facebookiisa cid walba gaadhaya kii maraykan joogiyo kii Hargeysa joogiyo kii meel kasta joogaba ayuu wuxuu doono ku qorayaa ama Twitter ha noqoto ama social media guud ahaanba ha noqotee marka inkastoo dawladuhu isku dayaan inay akawnnada qaarkood ay xanibaan oo ay xidhaan haddana laakiin waa wax is-eriyanayo oo garanaysa mar walba haddana wejiyo lagu dhaafo iyo wax badan leh laakiin waxaan isweydiinayaa arrinkan faafreebku inaanu ahayn sidan fudud ee loo dhigayo runtii Sheekh Cabdirasaaq iyo si fiican bay uga hadleen maxaan ku dhahdaa sayid iyo laakiin haddana sida aad muddo imika in loo dhigayo inaanu u fududayn marka hoos loogu daadego oo waxa weeyaan wixii la isweydiinaya waa afkaartii dadku way ku kala duwan yihiin fikir adigu aad u aragto inuu yahay fikir waxa weeyaan aad u xun ayaa laga yaabaa haddana bulshada inay aragto fikir wanaagsan oo ka waliba ka agdhowi marka waxa weeyaan sida afkaarta kala duwan la isu waafajinayo marka ta siyaasadda laga tago siyaasadda de ninka siyaasigiisa waa runa waxa la wixii isaga de systemkiisa nidaamkiisa waxyeelaya inuu isku qabto isku dayaya laakiin ta kale markaan ku soo noqonay bulshada lafteedii afkaarta kala duwan ee anigu aan mid sax u arko mid iga soo horjeeda uu khalad u arko maxaan ku idhaahdaa mid kale uu si kale u arko maxaa lagu kala soocayaa haddii arrinku faafreebba uu yimaado tusaale ahaan buugga uu hebel qoray in la yidhaahdo waa buugni uu xun oo dadka qaarkood ay yidhahdaan buuggan inaga guba laakiin bulshada haddana qaarkeed leeyihin war maaha ee waa buug wanaagsan yacni laynka lagu kala saarayaa wanaagga iyo xumaantu muxuu yahay حتى markan diin ahaan u noqono inaan iyada lafteeda noqon intaa guudood ee ahayd wixii diinta wanaagsan in la sii daayo waxa kale aan diinta lafteeda waa afkaar kala duwan oo madaahib baa jirta afkaar kala duwan baa jira وقرنيسا wax badan oo kale iyaga laftoodii maxaa lagu kala saaraya tusaale ahaan xataa marka laga baxo taa lafteeda
maxaa lagu xadidayaa maxaan ku dhahaa tusaaleaan haddaan imika anigu bibleka doonaya inaan akhriyo oo aan daraasadayo yani in airportka lagu qabto la dhahdo alla bible buu dalka soo gelinayo yani ila waa la akhriyi karaa waa la daraasayn culimo akhrida waa la daraasayn karaa laakiin maxaa lagu kala xadidaya yani waxyaabo badan oo waxa jira marka hoos loogu daadego u baahan maxaa kala xadidaya ee kala maalin dhaweyd sheeko dhacaysa waad arkaysayno inamo dhalinyaro oo maktabad lahoo buug soo dejiyey oo malaha inaan airportka joogaa uu calaamad kristaan intuu dusha kaga arkay inuu yidhi kristaan bay faafinayaan ilaa markii dambe ilamadii 7 cisho xidhnaayeen oo markii dambe wasaaraddu soo fariifaygaray inuu buugu diintaba u adeegayo diintaba difaacayo yani laakiin dee qof meesha taagnaa ra'yigiisa unbaa dad xadhig u muteeno buuggii iyo wixii la xamnimo ma garanaysaa marka iyada lafteeda maxaa lagu kala saaraya maxaa lagu kala duwayaa runtii aniga afkaarta ta u baahan in hoos loogu daadegaa sida aniga ila tahay waxa weeyaan taas weeyaan aad baad mahadsan aad iyo aad baad mahadsan tahay roble runtii waa su'aalo muhiima isuimaadku inay ku yimaadaanna barakooyinkaasay leedahayoo xagla kala duwan baa wax laga tusayaa ama hadal ka imanaya waxaan doonayaa markaa inaan horta inoo jawaabo bal weliba aqoonyahankiina hadlay martida ahaa su-aashii maxamed soo weydiiyey mid la midina waxay ku jirtaa shaadka oo ay leedahay cafwan su-aashii maxamed su-aal eega kalena waa lasoo qoray oo leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxbarashada manaahijta waxbarashada hakad manaahijta hakad macallimiinta dhigaysa iyo adeegyada kale ee asaasiga ah ee wadamo qalaad laga soo waaridaa ma u baahan yihiin faafreeb kaalin noocee ah ayayse dowladdu ku yeelan kartaa markaasi su-aashii maxamed maarjiina weydiiyey na way soo gelaysaa oo ah faafreebka xagga waxbarashada iyo iskuullada maarata maadaama dowladdu ku haynin gacanta iskuulladii oo dhan sidee baynu ka yeelinaa soo dhawaada waxaan filayaa waan ka yar odayaasha culimada waan ka yar boobayahay runtii waa soo koobayaana horta ereyga faafreeb rashiid sheekh cabdilaahi aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waynu ku celcelinaynay oo in badan baynu ku celcelinaynay laakiin weligay isma weydiinta xilligu soo bilaabmay waa taariikh inoo korodhay marka dadku isu yimaadaanna wax badan bay kala faa'iidaystaan runtii oo aad baynu ugu mahadnaqaynaa rashiid ilaahay caafimaad ha siiyo ilaahay cimriga waa u dheereeyo ha usii dheereeyo waayo waxyaabahaas waa waxyaabaha u baahan in la weereeyo oo dee taariikhdii gelaysaa oo maxamed aadan sheekh runtii ilaahay u naxariistay waa ninka wasiirnimada soo maray oo dad badanna ay qirayaan inuu ahaa qof wanaagsan su-aasha maxamed shucayb maartiba halkaa u qoranaya waa waxay la egtay laba qaybood oo kala duwan oo haddana dee isu imanayo mawduucii aynu sheegaynay aynu lahayn waa ballaadhayay unba ka mid tahay dhinac waa waxbarashada oo dee anigu waxaan isleeyahay xagga waxbarashada waxaa runtii imikadan baa awood u leh oo gacanta inay ku qabata ay tahay wasaarad baa u dhisan oo wasaaraddaasi wixii la dhigayo ama private ha noqoto ama ha noqoto mid publica labadaba inay iyadu u xilsaarantahay inagu anigu saasaan dee isleeyahay laakiin tan aynu xoogga saarayno waa waxyaabahan furan ee kale waa se mid meesha ku jirta marka waa mawduuc aynu dareemayno in loo baahan yahay sidee markaa waa sidee taasaa isweydiintu markaa ay ku soo marka wax laga doodee laga hadlo baahidiina la arkayo waxay noqonaysaa in la helo xalkaasna aanu kolleyba waxaan u arkaa inuu yahay xal ballaaran oo ah nidaam hay-adeed oo laysla ogol yahay oo aan ku koobnayn shakhsi jooga airportka ama qof jooga wasaarad aan ku koobnayn ama madaxweyne meel jooga ee ay noqotaa wax weyn oo shuruucdeedii xeerarkeedii oo dhaqan iyo diinba raacaysa in la sameeyo waa loo baahan yahay waqti yarna laguma samayn karaa anigana tahay waana loo baahan yahay in dee aad looga wada hadlo intaasaan ku dhaafaya odayaashina kale wax ku darsan ku jirtaa ifraad waa runtii wuu sheegay laakiin waxaan isku dayaan in yar ku daro kelmad yar horta kelmad buu soo qaadanayaa erey yar oo weer yar oo yidhi rashiid sheekh cabdilaahi ilaa khayra siiye wuxuu yidhi marka uu caqligu isku furan yahay kelmaddaa waxa weeye weer yar oo kooban
laakiin macno weyn runtii ay ii kordhisay ereygaasi wuxuu keensanaya marka caqligu isku furan yahay waxa weeye wax badan baa la xallin karaa wax badan baa la hagaajin karaa wax badan baa la sixi karaa marka aan caqliyan baa markaa loo wada hadlaya ay ka dhigan tahay waxa ka baxay caadifadii iyo hadaladii wixii dhan baa meesha ka baxaya wadamadan aynu nimida aan joognaa imika waxa weeye waddankan wuxuu leeyahay iskuul kasta wuxuu leeyahay maxaa leeyahay board iskuulladu board bay leeyihin boardka waxaa ka kooban maxay deeqaad dowladda ka socota qolada aqoon-yahanada ka socda waalidiinta iyaga waxay eegayaan waxaan la dhigayo ee ardayga loo gudbinayo waxa laga qaban karo wax la samaynayo waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah qayb weyn baa jirto CLA baa la yidhahdaa maxaa leeyahay waxbarashada waxaan kusoo jiray iminka almost maraykanka 20 sano way gaaraysaa meelun jaamacadeed un dhex joogay waxyaalaha la sameeyo curriculum learning assessment koox baa jirta group waxyaalaha la eego waxaa ka mid ah da ahaan waxaan la gudbinayaa ma u qalmaa ma ku habboon yahay sidee bay u kordhinayaa kabacooga maskaxeed bulsho ahaan bulshada ay la nool yihiin siday ula jaan qaadayaan sideeba u siinayaa fursad ay ugu furnaadaan oo bulshadan ay la nool yihiin ay ula noolaan karaan haddii dar waxay ka fikiraan waxaan loo yaqaano coexistent in dadku wada noolaadaan in dadku wada jiraan wada socon karaan ama diin ahaan ha noqoto ama dhaqan ahaan ha noqoto markaa la eego haddii jeerna way sameeyaan waxaan la gudbinayo xataa waxaa la kastaa muufiyadan ay dad kale u gudbiyaan marka halkan la joogo magacyay leeyihin oo waxa weeye ilmaha yar kaama geli karo aar waxbaa reedi baa loo sameeya marka haddii jeer waxa weeye haddii la isku yimaado oo la wada hadlo oo guddi la sameeyo fiican waa runtaasay sheegeenoo koox keliyii ma afduuban karto waana laga fiican yahay in kooxi qabato dowlad waxa qaban kartana maaha waxa dowladda doonto samee dowlad ku guulaysanaysa inay samayso maraykanku wuxuu isku dayay bugaa badan inuu maxaa leeyahay caburiyo way socon weydi waxaa ka mid a buugga ninka loo yaqaano maxaa George Well waxa la 1848 ayaa buugga magaciisa la yiraahdaa wuxuu qoray buuggiisii hore ee Animal Farm oo dacwad walba danaso beerta xayawaanka waa buug maxaa meelaha qaarkood ka mamnuuca waxa imika la isku haystaa ma lagu dhigi karaa xaalad cusub baa la galay oo ninkii bari la dilay baa maraykanka wuxuu ka abuuray xaalad cusub dabeetana wuxuu keenay xogaa yaroo kala duwanaansho iyo kacdoon ma lagu dhigi karaa maxaa dugsiyada maxaa maraykanka aragtida ah in maxaa gumaysi ka dhacay maraykanka oo dad ay gumaysteen waxa leeyahay marka ilmihii cadaanka ee meesha fadhiyay ayaa wuxuu dareemayaa inuu dambiile yahay marka loo maqlaa awoogaa waxan buu sameeyay marka la guro waxa weeye ilmihii baa ku keenaysaa cudad nafsiina ku imanaysa ma la sameyn karaa marka waxa weeye kulli marka la isku yimaado ee wax la sameeyo wuxuu magacaabay su'aasha kale lama raacin haddii ay maxaa yara fudaato maxaa xagan kale ka dhigayo markaad u fiirsato buuggan maxaa imika la sameeyo kale buuggan imika qumane ee ninka iqra leh qoray maxay haday aqwa muqila ama uu bixiyay waxa weeye horta xarigu meesha uu gafbu ahaa waa taayada cidna ma taageeraysa laakiin markii ay maxaa leeyahay guddidii culimada iyo guddidii macruufka iyo taliyii boolisku markay ay isku yimaadeen iyo inankii isku yimaadeen waxaad arkaysaa sida inankaasi maxaa u hadlay inanka asli magaciisa la yidhaha cabdixakiin maxamed ma aqoon ma lihi laakiin inankaasi markuu hadlayay waxyaalaha uu ku hadlay waxaa ka mid ah ama ereygaasi uu keenaya inuu ku qanacsan yahay inuu wax seege loo tilmaamay inuu wax aanu maxaa ogeyn oo meesha galay uu galay isagoo faraxsan oo niyadsan oo wanaagsan haddaba ninkii maxaa wixiisa la qabtay ninkii wixiisa la xidhay ayaa sidaa qurux badan u hadlaya waxay muujinaysaa caqligu markuu shaqeeye la wada hadlay ereygaas aynu qaadanno caqligu isku furan yahay in wax badan la xallin karo aad baad u mahadsan tahay ikhwaani horta waad mahadsantihiin dhammaantiin waa halkii rooble su'aalo ka badan jawaabaha ayaynu haynaa waynanu u baahnayn inaynu taas ay dhacdo oo aynu mawduucyada noocan oo kala gallo lagana hadlo oo ay markaa maaragtay u samayno waqtiyo kale aynu kasii hadalno marka waxa inoo soo aadan ku salaamsha waxa aynu samayn doonaa runtii marar kale aynu soo noqon doonaa laakiin waxa inoo soo caddaatay halkan horta kow dadka in la dhiso haddii dadka la dhiso oo ummadda aynu tarbiyaddeeda dhisno iyaga isfaaf reebi doono qof waliba xadkiisa garan doona
madaxdu iyo dowladduna inay dadka qasabto way ka maarmi doontaa hadday dadka marka hore dhisto oo ummaddeeda rabayso ummad rabaayadoo wanaagsan oo aqoon leh oo is ixtiraamaysa innagu ummaddu xabin nahay keliya oo wax walba aad mooddo inaynu isaga dhownahay waxa ku heshiiyey oo aan haddana aqoontii kobciya ummado boqolaal siyood u kala duwan wax walba ku kala duwan ayaa haddana waxyaala aasaasi ahoo ay ku heshiiyeen ay jirta ummaddooda ku dhisan tahay oo aan caburin oo aan xari ka jirin isla markaana haddana aqoontu aanay u joogsanin maalin kasta hal abuurka dhiirigeliyo lacag ku bixiya marka aad baad u mahadsan tihiin cid kale oo hadal odhanaysaa miyay jirtaa waxaan maxamed su'aalihiibaan jawaabtii أنا قريبا والله هي سودو عبد الساق شو جامع السينما هي waxaan u yardeynaya Rashiid baan odhanaya kabir baan leeyahay oo ku dambeynaya in professorka yahay ugu horeeyaan iyo abwaan هي جامع سودو بسم الله الرحمن الرحيم وان حلي دنباني بيومان ما نعرق موضوع يحيى سيسنتيسا marka sayidii fuaad way dhaafeen laakiin sheekh cabdirasaaq baan dhageystay hadalka oo dhammaystiran wada dhageystay ilaa khayra ku siiyo 10 aad iyo aad u qiimo badan oo runtii waaqiciga ku salaysan waxay fiican lahayd inay mawduuca isaga habeen u deeno keligii si maaragtay aynu marka uga dib ugu noqono way mawduucan uu balaaran yahay waarno la isku wada raacay marka waan aad baan ugu farxay inaan ka soo gaaray ugu yaraan intan dambe ee su'aalaha iyo jawaabuhu kordhiyeen alxamdulillah rabbil alamin 10 wax laga baran kara baa meesha ka jira inta aanan mawduuca aanan maaragtay waxaan doonayay ka oranin waxaan doonayay inaan idin weydiisto allah u naxariisto walaashayba geeriyootay mar dhaweyd Fosin Muuse Jaamac inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun waxaan idinka codsanayaa in waliba meel fog Turkiga ay joogtaa oo ay ku geeriyootay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun ka sadeer ku soo biiray mar dhaweyd ilaahay raxmadiisa waasacaan ilaahay naxariisto firdawsa ka waraabiyo amiin culayskii fara badnaa ku soo dhacayna ilaahay naxariista janno ka waraabiyo amiin culayskii fara badnaa ku dhacayna in ilaahay dambi dhaaf uga dhigo intaa kadib mawduuca waxaan u malaynayaa nuxurkiisa dhabta ah haddii aynu ka hadlayno faafreebka ah ku salaysan shakhsiyadda iyo haddii badankeed leeyahay bulshada iyo haddii badankeed leeyahay maaragtay yaqiinta kamaynaan doodneen hadalka halkiisa aynu ugu tagno marka ay dooddu imanaysaa isweydiinaynaa waxa weeyaan marka fasaxa si qalada loo adeegsado awood gaar ah ay adeegsato waa halka cudurku ka imanaya marka sidee baynu taa uga hortagnaa doonayna inaynu ka fikiraaye aynu ma aha wax inagu inagu bilaabmay ya dibuma we are not inventing the wheels wax cusub ma bilaabayno waynagaasoo ilaa dowladaheennii ugu horreeyey bay soo taxnayde oo la isweydiinaya markaa wax cusub ma samaynayno laakiin innaga iminka hal mid baa cad ummaddani ummad qoraalku ku yaryahay bay ahayd ummaddani markay wax qorto buug la qoro waa marka xanuunka la arkaya oo waxaynu iminka u dareennay inuu degdeg ugu dareennay sidii wax isu bedelaya marka maadaama uu jid cusub inagu furmay oo halkaa sida uu roob la sheegayay maanta haddii ay ereyga la odhanayo inay isleeyahay faafreeba oo physically u faafreeba suurtagal maaha oo social media baa furtay cidina ma controli karaysa maanta qofku wuxuu odhanayo laakiin qoraalku waanu ka xanuun badan yahay oo ka dhibsanayaana wuu ka uga dareen badan yahay intaa iminka bugaag xataa dee halkan somaliland aynu joogno la hadalhayo in ka xun oo ka badan baa afka la iska yihi waxaa idin isbarbar dhigtaanuun qofku marka uu qof caayo ama uu gaf ka tirsado erey uu ku yidhi
iyo marka uu gabay u tiriyo siday u kala duwanaayeen beriyo xanuunka uu leeyahay in gabay qof wax lagaga sheegaa wuu ka culays badnaa in eray intuu qofku hadal iska yidhaahdo waayo waa la ilaawa hadalka maansada lama ilaaweyn tiibaa dabeedna lakab kale la sii saarayoo haddaan dhibsanayo wax anigu awooddiina leeyahay haddii wax layga qoro markaa ma ogolaanayo oo markaa seefta la soo baxayaa ee seefta faafreebkay dhabtahay ay soo baxaysa sidee baynu uga badbaadnaa marka ku soo kordhin maayo anigu maaragtay dee intii aqoon halkan waa laga yidhi laakiin su'aalo fara badan oo kuwa uu maaragtay dee roob la taabtay baan ku sii darayaa insha allahu waanaan usoo diyaar garoobi doonaa insha allahu ilaahay ka baryayaa in ay igu marti qaadaan xalqadaha dambe soo socdo anigu soo diyaar garoobay waayo waa mawduuc u baahan runtii aniguna mid baan odhanaya faafreebka iyo xaaladda maanta jirta oo jacmana hadda ka hadlayay si fiicanna uga hadlay waxaan ka qaadanayaa oo keliya waxaan hadda la yidhaahdo warfaafinta bulsheed social media waa sidaa uu jacma sheegaya waxay noqotay waxaan idina faafreebi karin anigu shakhsiyan faafreebka suldad ka imanaya baawar haysataa quwaday wax ku xidha leh oo ciidanay dadka ku qabqabata leh ee deedna maskaxda dadka iyo wixii ka soo baxaya dibnahoodu ay ku dhawaaqayaan dabagelaysa ee ciidan daba dhigaysa ee xabsi gelinaysa waa necbahay aad baan runtii u necbahay waa gartahay waa gartaa waxaanadii odhade waxaan iga ii gaaraa oo iga soo maray oo aan dad badan kaga duwanaa ma jirin tii hadraawi ka soo martay siyaad bare aniga ima soo mari tii culimmadii la laayey ila wax kale kuma dhicine culimadii maxaafaafreebkaasay ahayd suldad nin baawar haysto awood isbiday ayuunbay runta u sheegeen goobteediina way ka hadleen masaajid bay ka hadleen waxayna u jawaabayeen isagiiba u jawaabayeen oo weliba saxayeen hadda u fiirsada way saxayeen oo way toosinayeen qaladaad uu galay bay sheegayeen isaguna on the spot ku xidhay aroortiina waan joogayaa muqdishoaan joogay 24 saacadood gudahood malaa way ka yaray markii la laayay faafreebka qofku marka uu qof suldad haysto oo powerkaa haysta oo xantanaya oo yidhi maya waxbaba laygama sheegi karo awooddaana waan isticmaalayaa marka waxa weeye halkaa meeshan u baahannahay in markaa mar dib looga hadlo sidee waxa weeye faafreebka haddaynu runta doonayno faafreebka xaggan inaga dhiga aynu ka fikirro mujtamac saalixa wanaagsan dhaqankiisa wanaagsan ku wada socda qofkiisu marka uu qalbigiisu nadiif yahay caqligiisuna nadiif yahay aqoonna uu leeyahay tarbiyad wanaagsanna uu leeyahay qof waliba qofka kale uu xeerinayo xaqiisa haddee qof waliba qofka kale xaqiisa xeerinayo ee halkuu isagu isdhigaba qofka kalena dhigayo marka waxa weeye faafreeb ma baahno meel kale kaga yimaado qofku marka isagaa isfaraya wanaagga inuu sameeyo qowlka wanaagsan inuu afkiisa ka soo baxo dadkana inuu xuquuqdooda dhowro dowladda inuu xuquuqdeeda dhowro cid walba inuu xuquuqdeeda dhowro kow suldada ay dadkaasi sameeyaanee dowladda madaxda ay baawarka u dhiibtaanna waa madax ku shaqaynaysa kii idinku khayr badnaa miihiir maquuladii abubakar sidiiq radiallahu canhu يا idinku wanaagsanaa miihiye haddaan qalloocdahay faqawimuuni soo ma ahayn توسيع صح توسيع soo ma ahayn madax taas ku shaqaynaysa oo wixii sheega oo innaqadiya oo dhaliishayda ii sheega madax leh ayaa mujtamaca caynkaasi abuuri karaa ما تصدق dibna waan ku khatimaya waxa weeye
run iyo been ba isbarbar socda haddii runta la aamusiiyo beentu way soconaysaa dunida oo dhan bay qabsanaysaa waana la iswada dilayaa beentuna dee dadka way isku dilaysaa beenta xoog lagu qabtaa ma celiyo ee bilcagsi wuu dhiirigeliya beenta waxa buriya run baa burisa hadaynu beenta runta kaga runta adeegsano runtuna wuxuu bay u baahan tahay meel caqligu xor yahay dadku ay sheegi karaan runta la sheegi karo laga baqanin ya takarta ay saaran haddaad ii sheegi karto aanan maroodigii noqonin maroodigii la yidhi takarta isaga saaran maarkee takakalu arkahaa sax haddii takarta anigay saaran la ii sheegi karo waxa weeye markaa mujtamac wanaagsan baynu noqonaynaa runta isu sheegi karo oo wax isfari karo oo istilmaami karo oo wanaagga isu tabin karo warkaagu waa cad yahay rashiid sheekh cabdilaahi inshaan dib baynu ugu soo noqon doonaa muuse dalmar waqtigiina waayna hayaa dabcan marka waan soo gabagabeynayna muuse iyo cabdirasaaq baan doonayaa laasiiyo muuse aad baad u mahadsantay cabdibashiir runtii hadalkii wala dhameeyey waxyaabahan ku dari lahaa waxa weeye bulsho kastaaba horta waxay leedahay waxay qiimayso ku weyn oo ka dhexeeya oo isku haya marka runtii wixii dhaawac u geysanaya bulshada waxa isku haya nolosheeda iyo wadajirkeeda dhaawacaya kolleba sharciyada iyo wixii ku heshiisayna ka hor imanaya in aqooyahankeeda iyo maamulkeeda iyo dadkeeda amba talada haya amaba aqoonta haya ay wax ka yidhaahdaan oo ay ka hor imaadaan waa wax meesha yaallo oo bulsho waxba ilaashataa oo marka sayna meesha inuu noqon halaq mareeno bulshada aanay noqon bulsho wax kastaaba iska qaadata laakiinse wixii ay diidaysay amaba dhaawac u geysanaya waa in si ilbaxnimo leh oo dulqaad leh oo faham leh looga jawaab celiyo tusaale ahaan warbaahinta kale xitaa qoraala ka samayn karta buugga imka cabdibashiir qode tusaale ahaan odhan karta buuggaas mawduucaasu ka hadlaya institutionada amaba hay-adaheena dowligayna waa inay noqdaan kuwa dhisan oo ka madax bannaan qof ama madaxweyne amba wasiir amar bixinaya waa inay joogaan dad aqoon leh oo wax akhriya oo wax fahmaya oo rogrogi kara oo aan go'aan degdega qaadan karin buugga laftigiisa jeer ay akhriyaan miisaamaan dhinac walba ka eegaan ana xitaa qoraagii ana degdeg xidhitaan baad sheegaysaa inaan xitaa odhan karin wax qaldamad qorto marka runtii innaga imika teena waxaad yar moodaa teeni dhaqankii ahayd ku kacaydi un bayaan oo qof buugiyo qofkii akhriinba halka inuu jaldigiisa ku qiimeeyo amba wax loo sheegay ku qiimeeyo marka institutionadan amba hay-adaheena dowliga iyo kuwa xitaa aan dowliga ahaynba oo la adkeeyo oo aqooni ay hagto in warbaahinteenu ay noqoto iyada lafteeda warbaahin wax kala hufi karto oo dee noqon karta wixii jira sheegi karta oo sidaa imika adeera sheegay dee runta ay keeni karta badka keeni karta inta badana jaamaca iyo rashiid boy sheegeene xukunka ayaa ama qolada dowladda haysata ayaa mar walba ku amar taaglaysa qof ama gabay sameeyey ama buug sameeyey laakiinse taasi waxay ahaan lahayd haddii institutionadu dhisan yihiin inaan cid amar bixisaaba jirteene ay noqon lahayd qofku inuu isna hal abuurkiisa dareemo xilka saaran shakhsiyad iyo bulsho ahaanna oo de qofna ma raba inuu wax xun sameeye xitaa qofka hawadiisu qaado is tiraahdo hal abuurkaaga xoojiyo oo aragtidiisu la marto waa inay jirta aqoon kale oo caabiyaysa oo la doodaysa oo qancinaysa waxyaabaha runtii aan aad uga soo jeeday qaladkiina waxa weeye in qofka horta la xidhaba nacamti qof hal abuurkeena in la xidha maaha waa in la naqdiyo waa in lala sheekaysto waa in lala doodo waa haddii wax qaldan sameeyey marka taasi timaado waxay noqonaysaa in la isqanciyo isna la dhegeysto marka runtii waxyaabaha inu baahnay hawlahan way nagu wada cusub yihiin buwaag badan baa la qoraya wax badan baa la alufaya qofka wax samaynayana isaga laftigiisu waxaynu aad ugu dheeraateen qof waa inu akhradiisa ka fikiro waxaa laga yaabaa qof aan akhradaba ka fikirayno adduunyada ka fikiraya isna ayaa wax qori kara marka laftigiisa waa inuu jiraa wax ismiisaamaya oo qofna dulmiyeyn laakiinse la doodayo tusaale ahaan iminka waddankan aanu joogno cabdibashiir iyo sayid iyo aniga iyo cabdiraxmaan iyo halkan ku noolnay waxbaanu qornaa wax ayaga ciidima faafreebtee waanu taabacnaa waanu iibinaa laakiinse haddii ay wax qaladi ka soo baxaan institution iyo library maktabada iyo iskuuleeyo wixii u tagaya way kula soo xiriirayaan ama warbaahintii bay la wadaagay warbaahintii baa qoraysa naqdiis tusaale waxaan soo qaadayaa nin bari dhaweyd dhintay oo farshaxanista ahaa oo laash la oran jiray oo bari dhaweyd gubtay gaari ku gubtay oo in badan waad maqasheen nabiga calaih salaatu salaam sawirra ka sameeyey ayaa
madxafyada waddankani qaar ka mid ay diideen inay farshaxankiisa soo bandhigaan halka ay waddankana xor tahay in qofku wuxuu doono samayn karo sharcigu dhigayo marka dad isagii taageersanba waxay leeyihiin sharcigan dhiganay waxaanu yidhi xorriyatu qowlka la ilaalinayaaye waa in farshaxankiisa la madxafka qaranka ee cashuurta dadweynuhu bixiyaan waa in la soo dhigo dadkii kale maamulka ee mas-uuliyadda haysan waxay leeyihiin wixii bulshada kala kaxaynaya ee dhaawac keenaya ee kalsoonidayada iyo mas-uuliyaddayadana dhaawacaya ma samaynayno marka waa inay jirtaa wax isdheeli tiraya oo caqligii iyo aqoontii u saamaxaya inay meesha yimaadaan oo caadifadii iyo ku kacayda iyo wareerka badani meesha ka saaraya marka runtii taasina way iska iman doontaa laakiinse dee odayaasha halkan iyo hablaha iyo nabada halkan ku jira iyo intayna dhegaysanaysaba waxaynu u baahannahay in dadka aqoonta leh ee garaadka iyo aqliga la saaxiibka ee bulshada wax u sheegi karaa inay ku dhiiradaan inay wax qoraan inay warbaahinta ka hadlaan inay safka hore yimaadaan si ay iyagu noqon karaan waxa meeshan wax kusoo kordhin kara dadkana kala hagi kara aanay ku dhiiradaan xitaa inay dowladda iyo nidaamka iyo nidaamyada wixii xooggan ee bulshada hagaya inay geli karaan marka runtii taasaan u malaynayaa inay noqon karto waxyaabaha miisaanka halkiisa dhigi karta aad iyo aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay si fiican baad runtii maaragtay u hadashay waa mawduuc runtii sidaynu hore u sheegnay weli u baahan dihiin inaynu isugu soo noqonoqono waxaan doonayaa inaan cabdirasaaq ku celiye mar labaad oo su-aalihii ka jawaabaya mid ka mid a kabacdina waa soo gabagabeynayna insha allah waad mahadsantahay maxamed waxaad inoo qaban doontaa maadaama iba furkii uu nala dheeraaday marka dambe ee loo madlayo mid insha allah loo soo diyaargaroobo dhowr aayadood oo qur'aana baan insha allahu tacaala dhegaheena iyo qalbigeennaba aan daali ku royahay horta inoogu darayaa mawduuca ka mid ah hawsha faafreebku runtii maaha hawl lagu haleeyey maamulo iyo xukumo iyo dowlado iyo xeerar iyo sharciyo keliya waa mas-uuliyad bulsho mu'miniinta guud ahaan baa laga rabaa haddii laga waayo cid xumaanta faafreebta way dambaabaysaa ummaddu ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaad tihiin dad la soo saaro kuwii ugu khayrka badnaa maxaa ku mutaysateen ta'muruuna bilmacruuf wanaagga ayaad dadka faraysaan oo faafinaysaan watanhawna cani lmunkar xumaantiina waa faafreebaysaan taasi waa mid waxaa kaloo ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay waltakun minkum ummatin yadcuuna ila alkhayr waa qasab oo ha la idinka helo qaar idinka mida oo dadka wanaagga ku dhex faafiya xumaantana ka reeba taasna waxa weeyaan waa waajib kaloo diiniya ilaahay wuxuu ugu goodiyey haddii la waayo ummad khayrka dadka u sheegto xumaanta faafreebta nacdal inay mudanayaan sidii reer bani israa'iil ilaahay uu leeyahay lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daa'uuda wa ciisa bna maryam dalika bima casow wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun ilaahay wuxuu leeyahay waxaa lagu nacdalay kuwii reer bani israa'iil carabkii nebi daa'uud iyo carabkii ciise xumaantaana iska faafreebi jirin oo waxaa la yidhi xitaa ninkooda wadaadkii markuu dhowr jeer dadka xumaanta israa ka faafreebay diidaan marka dambe isagaaba la fadhiisan jiray oo la wadaagi jiray mar baa lasoo diray malag baa waxaa loo soo diray qoom inuu halaago kolkaasuu wuxuu yidhi yaa rabbi inna bihaa fulaan rabbiyow hebel baa ka mida dadkan aad leedahay soo halaag fabihi fabda baa yidhi isaga ka bilow fa innahu lam yatamacar wajhu min ajli maalin qura wejigiisu ilaahay dartii uma cadhoonine isaga laftiisa ka bilow waxaa kaloo jirta raqaabadda noocyaheeda oo ka mid ah in ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu kuwa jecel inay xumaantu ku faafto mu'miniinta dhexdooda ilaahay agtiisana cadaab xanuun badan bay ku leeyihiin aakhirana waxay ku leeyihiin cadaab marka inaan la ogolayn faafinta xumaanta gabayadii sugaanta xasaan ibnu thaabit maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu damcay inuu quraysh iyo gaaladii ka difaaca nebiga dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi haddii aad xasaanoo quraysh wax ka sheegto dee aniga nasabkaygi baa ku jiray maxaa la yeelayaa warka uu ka faafreebay nebigu calayhi salaatu wasalaam xasaanna uu ka jawaabay wuxuu yaa rasuulallah nasabkaaga waxaan uga dhex saaraya sida tinta cajiinka looga dhex saaro amba tinta qooshka looga dhex saaro sidoo kale cumar baa damcay xasaan oo masaajidkii nebiga ka gabayaya inuu ka faafreebo ku dhaahdo indhaha ku gubo xasaan warkiisi dhagomu dhigana wuxuu ku yidhi mid adiga kaa khayr badan baan hortiisa ka gabayey oo nebi maxamedu ka wada calayhi salaatu wasalaam waxaan ku gabagabaynayaa mid aan odhanayo inamadii soo tarjumay buugga qumane oo aan leeyahay wax idin gaadhay ilaahay nafar gardalaa allah idinka dhigo xabsigana qaar idinka khayr badan baa la xidhay waa inagii sheegayna sheekh alislaam ibnu taymiya 7 sannadood tii u dambeysay oo ku dhintay baa loo xidhay isagoo wax khayr iyo xaq sheegayey oo marnaba masaladuhu aanay ka hoosin isla marnaba aanu taariikhda xagga khaldan ka gelin ee mar walba shay uu cilmi iyo aqoon u leeyahay ummadda u faafinayey waxa kaloon leeyahay ereygan qoran ayaa qiimo badan waayo waxa qoran sidii ninkii odayga ahaa laga sheegay wixii qoran baa qurumahadhe muxuu hadal qiime leeyahay qalinkaa wax suureeya buu hadraaminaya qalinkaa wax suureeya kugu sima
halkaa doonto ilaahayna subxaana watacaala nuun walqalami wamaa yasturuun ayuu ku soo dejiyey wax akhriskana aayaddii ugu horreysay ba ahayd iqra ilaahay ku soo dejiyey iqra ilaahay nabigiisa uu ku amray inuu wax akhriyo isagoo weliya maa ana biqaari waxuma akhriyo nebiga waxay u ahayd karaamo iyo sharaf bay u ahayd ummaddiisa laakiin way ku ceebaysantahay waanay ku cambaaraysan tahay inay wax akhri weydo waxna qori weydo marka ma jecli inaan kusii dheereeyo inankii su-aashiina weydiiye ahaa ma laga maarmi karaa haa waa laga maarmi karaa rashiidna uu sheegay waxa xal u ah faafreeb in laga maarmo wacyiga ummadda oo la dhiso diinta oo la barto dadka oo toosnaada arrimahan faafreebka ee mararka qaarkood ka soo yeedha iskuullada qaarkood amba manaahijta qaarkood lasoo daabacayo waxay ku tusaysaa dadka wacyigooda inuu nool yahay laakiin waxa ka yar maqan oon halkan jecelahay fariin inaan uga diro inankii sabab u noqday inamadii qorayaasha in la xidho waxbaad aragtay munkar kuma khaldinidoo laguma odhanin calaamadaas sax bay ahayd waa laga saaray waxay daliilu tahay inaad saxsanayd laakiin waxaanad eegin usluubkaad u bedelaysay si yaroo ka fudud baa lagaa yeeli lahaa sababtaan ninkaa fariinta gaarka ugu diraya waxa weeye inankii buugga tarjumaya sabab u ahaa inay doodeena furanto isagaa hadlay oo garnaqsaday oo si wanaagsan oo weliba sharaf leh u garnaqsaday intaasay ku gabagabaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دمانتين بقى أدي أدد ما تنتهين أنتي الأخيارتي نهاركن كسو قيب قشي إيو أنت تبدأ لك دعونا السبع حانا لا هاي جزاكم الله خيرا برنامج كانوا ونسيوا دونا ونسو وهب قرن دونا لك أصلا لازم تعزيد الجامعة وإذا تعزيدين ولا لنا ودعين ولا صحوي ولا لك جامعنا نحن نقطع تعزيدين جيدة كنت فاملك إلهي سبحانه وتعالى ولا فوسيا أو نحرز جنا كورابيو إلكن السمري إيمان إلهي سبحانه وتعالى كسيو إلهي بدر ونكسر خير طبعا هاي تسير المانتين وانا نقدر من حنونك إلهي ونحرز اللهم اغفر لها وارحمها وسع مدخلها يا رب العالمين آمين يا رب الكاس اللي بسوق بقولنا ومع ستين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته